للعبادة وابتلينا بالإرادة إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة غيرنا يرضى بكفر بل ويعطيه القيادة غيرنا يحيا ذليلا يدعي عيش الزهادة غيرنا يرضى بكفر بل ويعطيه القيادة غيرنا يحيا ذليلا يدعي عيش الزهادة ويخاف كل حتى يدعي دوما حيادة ويخاف يدعي الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyadoo la soo gaaray gunaanadkii mu'tamarkeenna tobanaad ee ururada islaamiga iskandinafiyanka laguna jiro muxaadarooyinkiisii ugu dambeeyey ayna noo baaqi tahay nadwadii ugu dambaysay ayaannu hadduu eebba idmo waxaannu geli doonnaa muxaadaro cinwaankeedu uu yahay afduubka dunida lagu hayo ama waxaan loo yaqaano globalizationka afcarbeedkana lagu yidhaahdo alcawlama mawduucan waxa uu la lug leeyahay mawduucii sheekh mustafa hadda uu jeediyey ee mustaqbalka islaamka iyo waxyaabaha bishaarooyinka ee soo muuqda laakiin la doonayo in la jallaafeeyo ama afka ciidda loo geliyo waa sida ay rabaan si looga feejignaado insha allah sheekh maxamed rashaad ayaan leeyahay falyatafadal mashkuuran in uu nadeeqsiiyo mawduucaasi afduubka dunida الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد dhammaanba walaalaha meesha isugu yimid rag iyo dumarba assalaamu calaykum waraxmat ullah salaamta islaamka ka dambow mawduucaan doonayno maanta inaan wax ka soo qaadno waa mawduuc qof kastaaba uu ka dheragsan yahay laakiin in la isxasuusiya waxba kuma jabna qof kastaahi rag iyo dumarba wuu ka dheragsan yahay cawlamada waxa la yidhaahdo ama dunida oo dhinac loo afduubo ama waxa loo yaqaano globalizationka maxay tahay ujeeddadoodu goormausa bilowday yaasa bilaabay dabcan kelimadda cawlamo carabiga markii loo soo noqdo carabiga boos kuma laha yani masaadirta ama ishtiqaaq kuma lahan carabiga يعني إرب بحين كمالها مر هداني لغة عربية إرب بحين هرا كلها هاينا كما هي ليست هداد قواميس عربية كيكتد أما اللغاهان أبارتد كما هي ليست هاي لي ماشي أقصو دوي كتما دواء العالم لكن عولمة وحايدتك أقصو جمعيين ومصطلح عصب وعرفتو إرب بحين عصبي هذا السميين وأن كم إذا هين قواميس عربية أنا كجرين ويان
afafkuna waa samaysmaan iskoodoo maalinba mid baa ku darsama ku samaysmaan luqa iskeedaho fiksidihii ma jirto maalin kasta waxbaa ku darsama luqooyinka wuxuu bilowday ereygan la yidhaahdo globalizationka ama globalizationka haddii la soo gaabiyo sagaashanaadkii ayuu bilowday waxaa jiray mustalax ka horreeyey oo la odhan jiray oo uu George Bush kii hore oo ku dhawaaqo uu dhihi jiray New World Order New World Order marka xataa asaga naftigiisu definition ma laha yani tacriif ma laha waxaanu u lahayn waa nidaam loogu talagalay inuu noqdo plastic hadba dhinacii la doono loo jiido loona adeegsado marka ma laha yani meel loola noqdo ama qaamuus loola noqdo ama dictionary loola noqdo oo lagu xadido ma lahan waayo wax soo joogi jiray maaha markaa koox sidaa darteeda waa nidaam hulaami ah oo mutaati ah ama plastic ah oo sidii maanta ukunta biyaheeda cad oo kale hadba dhinacay u dilaamaan oo kale ishaysto dhinac u dilaamayo oo kale way sidii la doono marka loogu adeegto way shaqay weyday oo sida asaga uu doonaya magacii waa shaqay weyday inuu yiraahdo New World Order waa shaqay weyday lagama tagin waayo waa wax laga soo shaqaynayay dagaalkii labaad ee adduunka wax laga soo shaqaynaya weeyii oo hadba dhinac loo jiidayay laakiin fursadiisa ugu weyn ay bilaabatay sagaashanaadkii markii ama 89 markuu Berlin oo baaba'ay wallkeedii oo labada Jarmal isku darsameen yani ayuu bilowday nidaamkan in laga fakaro min jadiid sida ogsoontihiin caalamka waxa markii hore kala haystay ama kala qaybsaday بعد الحرب العالمية الثانية أما دقال كي لبادي أدونك لبا كتلو أما لبا جبسن أي عالم كأوكال قيب سمي وحلو يقانو عالم كشوعيقا أو روشكو هقامين أي ستالين إيو مانت ماركي سالينين إيو ماركس إيو هقان سنيين طبعا هذا كسونتين إن يهود هايين ماركس إيو مانت ماركس إيو هايين كارل ماركس يهود كاها مركز يوران أها وداد oo la yiraahdo qoladan la yiraahdo psychosocialist la yiraahdo ayuu markii horeeto ama social kadibna markay yiri diinta dhan gibigeedo dhanba waa inaan ka takhalusaa asagu ku dhaqaaqay si uu waji cusub ugu sameeyo ama xilfi cusub ugu sameeyo طبعا wuxuu ka dhaadhiciyay Lenin iyo Stalin iyo qolyahaas uu ka dhaadhiciyay marka nidaamkii reer bariga ama shuuciga heeradinka hore oo taqaaniino nidaamkii Warsaw ama gaashaanbuurtii Warsaw la oran jiray iyo nidaamkii NATO waa markii ay samaysmeen gaashaanbuurtii reer galbeedka oo hogaaminaya Mareykanku iyo midii uu hogaaminayay Ruushka labadaas ayaa caalamkii marka u kala tartamay oo qaybsatay waxa samaysmeen marka runtii markii labadaas ay samaysmeen kutlad kale oo saddexaad ayaa samaysmatay markii adduunka ay ku noqdeen khatar kaasna waxa soo galay sida ogsoontihiin waqtigii taamkii Khrushchev oo Ruushka haystay sawaariikhdii Kuuba lagu rakibay ee tahdiidka weyn keentay oo miiska lugaha u saaray Khrushchev ra'iisul Ameeriki oo markaa sidaa sameeyo ku istaagay haddana intuu lugaha miiska saaray ku dul istaagay ayaa keentay azma ama maantii black ay yiraahdaan cloud ay yiraahdaan oo caalamku mar kale inuu dagaalkii saddexaad adduunka oo ka qarxado ay khatar ku noqotay طبعا Mareykanku wuxuu doonayay jasiiradu dhow sawaariikhda lagaga soo ridi karo in sawaariikhda Ruushka loogu xirinin Ruushkuna wuxuu doonayay hadii taa la baabiyo macnaheedu inay tahay in la baabaasho mucaskarkiisii ama qaybtiisii loo soo dhigtay sida darteeda waxay noqotay inay caalamka kale tiiraadan aan joojino marka waxa bilaabatay kutladii la oran jiray cadamul inxiyaaz ama labada dhinacna aan aad loo raacinin oo marka uu bilaabay جمال عبد الناصر iyo Nehru iyo Marshal Tito ay bilaabeen ayagoo dabcan shuuciyada kuwa tahadana inay bilaabaan arinta ayada oo caalamkii marka ay kutlad kale oo saddexaad ay activate gareeyaan dabcan taas waxay keentay noocan ma xurriyad yar inay caalamka kale tahelaan oo marka aan qolana ku duulin qolada kaleeto oo qoladii saddexaad ay xoogaa marka ay helaan relief yar ay helaan waxay nidaam la sameeyay oo lagu abuuray ayuu ahaa marka qoladii reer galbeedka la dhigi jiray
oo naata ay hogaaminaysay iyo qoladii ay wars hogaaminaysay qolo kale oo saddexaad oo aan toos u gelin ayaga laakiin xiriir la hubka ka qaata laakiin nooc min alxurriya haysta ayaa soo baxo duwal cadam al-inxiyaaska la yiraahdo ama aan dhinacna raacsanayn labada xero markii la fiiriyo mudday soo socotay marka qadiyadaas ayada ahayd waxaa jabshay marka arrinta ayada ahayd ama dagaalkii marka waxaa loo bedelay oo Khrushchev ku istaagay miiska waxaa loo bedelay dagaal qabow in laga dhigo oo aan dagaal sawaariikh oo la isla dhacayn laga dhiginin marka waxa loo yaqaano Cold War ayaa bilowday oo tajassus iyo maanta markaysaa xarbun nujuum in lagu dhaqaaqo ayaa bilowdo marka qolada kale to dayax gacmeeyada la isu adeegsado oo qof walba waxa uu haysto kor laga soo ugaarsado ayaa bilaabato tartan technology ah in la isku dhaafo marka lagu dhaqaaqay iyo awood dhaqaale markii uu dhacay marka nidaamkii looga raayay xarbun nujuum dabcan oo ruushka oo mareykanka oo ku dhaqaaqay ama waxa la yiraahdo Star War ma geli karin sidii uu uga tegay maanta ruushka oo uga tegay Brezhnev midayna geli karin tartankiisa ayay noqdeen ninkan yahuudiga ah ee Khrushchev la dhigay balka muxuu ahaa Gorbachev ayaa loo soo miineeyay marka waa loo keenay wuxuu freeze gareeyay marka kutladii sharqiga ahayd awoodoodii powerkoodii inuu paralyzation ku sameeyo ayaa loogu talagalay nidaamkii marka Ronald Reagan oo uga faa'iideystay in asaga la maal geliyo shuuciyadana halka laga daadiyo sida iminka boobka oo yahuudi ah loo soo dhaxgeliyay kaniisadda Roman Catholic oo kale ayaa loo soo dhaxgelshay asagana shuuciyadii naftigeedii oo kor loogu soo qaaday markii Andropov ay ka takhaluseen iyaga naftigooda arrintaas marka Cold War wuxuu dhamaaday ama dagaalkii qaboobaa wuxuu dhamaaday 89kii markii Berlin labadii gidaar ku dhaxeeyay la jajabshay oo labadii Jarmal ay markaa midoobeen inta marka waxa bilowday markuu ogaado taas oo arrintaas ay dhacday ayuu ku dhaqaaqay ninka la yiraahdo George Bush iyo la taliyaalkiisii aan sameeyno nidaam cusub marka oo caalamka hadda marka min jadiid loogu dhaqaaqo maadaama sharqigii oo jabay oo aan ka raynay marka aan ka qaalib noqonay aan bilowno nidaam kale to cusub oo adduunka marka anagu aan ku saytarayno marka wuxuu yiri aan bixiyo magac la yiraahdo New World Order definitionkiisa ciidan anaga ahayn oo taqaana ma jirto aan iraahno qaanuunkii United Nations lagu aasaasay oo ahaa in la sameeyo peacekeeping aan bedelno peacemaking aan ka sameeyno buu yiri peacemaking waxa weeye inaan military force aan ku qaadno anagu oo meeshii anagu aan nabadgelyada ka xasilin lahayn anagu nabadgelyada gacanteena aan ku sameysano midaan doona aan cidaan doonana ridno cidaan doonana aan keeno taban waa ogsoontiin wixii uu ku hayay Mareykanku Latin America oo looga takhaluso Salvador Allende markii la dilayay iyo Nicaragua iyo Bolivia iyo Honduras iyo wixii lagu soo sameeyay Guatemala iyo waa ogsoontiin Mareykanku wuxuu soo sameeyay waxa Afghanistan lagu sameeyay ka badan oo aamusan oo silent ah ayaa lagu baabaashay Latin America waxa la wixii andimaha ka jiro isaga khilaafsana dhamaantood waxa timid markii uu dhacay nidaamkii reer barigu xarbul khariij waxa saaciday iminka globalizationka ayaan rabaa inaan idin sheego waxa saaciday dhicitaankii uu dhacay kutladii sharqigaada ay dhacday labo waxa u soo gogol xaartay xarbul khaliij dabcan xarbul khaliij maxaa keenay xarbul khaliij waxa keenay runtii takhdiid ay sameeyeen Mareykanku ay sameeyeen yuhuudu ayaa keentay hay'ad dagaalka Iran iyo Iraq sida soontihiin waxa bilaabay oo create gareeyay Mareykanka ayaa create gareeyay markii shaahi meesha laga riday asaga oo watay ayaga ku create gareeyeen in wadaadadii meesha qabsaday dagaal lagu sameeyo aan marnaba xukun makansanin Iraq ayaga ku kiciyeen marka ayaga sameeyay sawaariikhdu kula dagaalamay Iran asaga sameeyay waa ogsoontihiin waxa laga bixiyay inteeda badan wadanka France ayaa laga bixiyay sawaariikhdii super etendar la oran jiray iyo exozet markii la siinayay oo loogu tala galay duwal Carabiya inay bixiyaan sawaariikhdaas oo idin lacagtoodii iyo taa'iraadkoodii miraajka iyo super etendar in lagu kordhiyo sawaariikhdii exozet la oran jiray kulli waxa ka dambeeyay Mareykanka iyo reer galbeedka dhan way u wada jireen markaa dabcan markii la isku soo baabi'iyay wada ogsoontihiin guryaha laga dhisay Saudi Arabia ninkii jidad taga waa yaqaana حياد دن أو ما أنت ماركيسا
laga dhisay camaa'ir 60 dabaqa laga dhisay oo ciddigay aan la garanaynin oo ka dhisan riyaad oo ciddigeeda aan la garanaynin oo damaam ka dhisan oo cid garanaysa aan la arkinin oo tabow laga dhisay oo ciddigaysa aan la garanaynin oo khafji laga dhisay oo ciddigaysa aan la garanaynin oo ka badan magaalo walbaba magaalada riyaad oo aniga aan deganaa nafteeda waxaa laga sameeyey ilaa 7 xayi oo noocaas oo kaleeta ah oo ay qaadaan markuu yiri 1 milyan oo qof ay qaado mid walbaba wax sacuudi oo degaana aan jirin waa dhisan yihiin axdath ma takuunu weeyaan wax ka faa'iideysanayana aanan jirin dadkoo dhan way la yaabanaayeen nin la oran jiray doctor nafisi nin la oran jiray oo siyaasadda ka dhigi jiray jaamacatul kuwait ayaa wuxuu yidhi xarbul khaliij wuxuu socon doonaa 10 sannadood ayuu socon doonaa waxaana bilaaban doonta yani iiraan in markii laga soo jeesto qadiyadooda in waddamada khaliijka lagu kiciyo mushkilad markaas ayayna maraykanku soo degi doonaan saldhigyaal maraykanka oo la dhisay ayay noqon doonaan guryahan aad u jeedaan typically sidii ay noqotay oo ku sheegay kitaabkiisii waatii laga eriyey waddanka kuwait waatuu u cararay waddanka ingiriiska u cararay kadibna imaaraadka loo soo cayriyey marka sidii uu sheegay typically ayay u dhacday cabdalla nafisi sida uu kitaabkiisa ku qoray oo ku yiri alcaalamu walkhaliij kitaabkiisii la oran jiray xarbul khaliij oo gabadhii safiiradda ahayd ee maraykanku ay soo ayirtay u tagtay Saddam Hussein ay ku tiri annagu wax danahoon kalena kuwii haddaad qaadanaysa ma jirto marka kuwii iyagaa batroolkaaga shuban jiray inta dagaalka ku sii jeeday hadda inta ku hartay adigu ka qaado ayagaa ku soo kiciyeen dabcan inuu qabi yahay istubid yahay ayay ogaadeen markii uu qaato sidii ku dhaqaaqa iyagu ay doonayeen wixii loogu talagalay ayaa loo soo dabiray marka in wadamadii reer galbeedka ama maraykanka ciidankiisa si uu ku soo galo xarbul khaliij oo ku soo galo wadamada khaliijka oo salgeeda loogu talagalay uu ku soo dego waatii la soo abaabulay sidoo u degana ka dhaqaaqi maayo qadiyada iminka ninkan la eryanay lagu eryanayaana waa qadiyadii iskaga hor yimaadeen nimanka khaliijka uu yiri muslimiinta ayaa ka saaraya Saddam Hussein Kuwait ee naga daayay ciidamada gaalada naga daayay ka kicimayaan khaliij ka kicimayaan xaramka ka kicimayaan ee naga daayay ciidamadan aad meesha ku soo guraysan ka daayay waxyaalihi la isaga hor yimid ayay ahayd waa la idinka qarinaya dabcan oo dadka inaan ogaana lama rabo laakiin waaqaca runta jira waa kaas way annaga ka bixinayna Saddam noo daayur nagana celiya gaaladan aad soo wadaan waa laga diiday arrinta ayada waxa dhacday marka xarbul khaliij markii ay dhacday maraykankii yaa duuleen ciidamadii asaga oo samaystay ee xilfiga haye aan gadaal iminka ka hadli doono ayuu soo diyaarsaday carabtii buu ku soo keensaday sida ghazwatul ahzab oo kaleeto meel kasta bani qatafaan iyo bani asad iyo ay soo kaalmaysteen quraysh sidii oo kaleeto ayuu isugu soo dabaritay kolka waxay ku haytaasi darba qaadiya ayay ku ahayd waad ogeydeen ruushku markuu ka hadal maaga waxa la yiri goormaad soo noqotay baa lagu yiri xataa markii ruushku ka hadlayo yiri aan ciraaq lagu duulin goormaad soo noqotay ayay jawaabtii la siiyay runtii marka waa iska aamusay maadaama uu ogyahay inaanu salka dambe waxba ku haynin lacag badanna looga gatay arrinta jabinteeda naftigeeda waxay qaateen marka wixii sharqiga looga heebaysan jiro dhan inay isku soo ballaariyaan oo marka caalamkii awal laba u kala qaybsanaa in hal mida laga soo dhigo globalization meesha ka soo bilaabato marka waa sidaa weey waa inaad fahamtaan marka taa cawlama meesha ka soo bilaabato halkaa weey yani caalamkii marka hore galbeed iyo bari u kala qaybsanaa iyo cadamul inxiyaaz in iminka marka biyaheedii la faafiyo oo hal kutla ah oo caalamkoo dhan laga dhigo taxta saytarati al-amerikaan iyo reer galbeedkana uu isugu yimaado bidaraja thaniya daraja ulaana amerikaanka oo gacantooda soo galo marka mustalahaadkaas jadiidka oo bilowday oo ka dhigtay runtii أمريكا أي جدي سمركا عد الله عدي رأيي كذا كسور جيستي إنه هي عدوها الوحيد يعني لما بيدخل قف وين النقطة إنه أمريكا يوروب النقطة عدو إنه راعي يقال لبضع متكوت قف كير هذا واحد ودان صح ما هو عدو أفضل أرنو كيري إنه جورج بوش وحي أنك أنك سور جيستي هو عدو وحي أنك نصور راعنا وأنا لجيران that's it وحكى لتوم ميشرمنتي أو كلتو جيران مجيران نكين الراعة وأنا لجيران ninkii naga soo horjeesto wax anaga naga dhana yiraahday waa cadawga naga period intaas ayuu ku soo gabagabay maxay taa marka cawlama jadiida ama globalization ama afduubka adduunku waa maxay asaaskiisu mabda weeyaan yani waxaan doonayaa definition ku sameeyo inaan arifo waa mabda waxa la yiraahdo globalizationku ama waxa la yiraahdo afduubka caalamku mabda ku dhisan oo ku salaysan weeye isticbaad الشعوب شعوبته إن لجميسته شعوبته أدونك إن لجميسته إن ثقافاتك أما ثقافة أيليهين
in la baabi'iyo fikrigooda in la dumiyo ijtimaacigooda in la baabi'iyo dhaqankooda dhaqaalahooda iyo jiritaankooda in la baabi'iyo ilaa ay ka noqoto shucuubtaasoo idil dhammaanteed ay ka noqoto mid raacsiisan oo weliba ayidaysa amriikaan bisifa khaasa si gaar ah amerikaanka u taageersan si guudna u taageersan reer galbeedka period waa sidaa weeyaan yacni waxay ku salaysan tahay in shucuubta la gumaysto lana baabi'iyo thaqaafaadka ay leeyihiin dhaqanka ay leeyihiin caadaadka ay leeyihiin diinta ay leeyihiin luqada ay leeyihiin in la baabi'iyo oo ay soo galaan in ay noqdaan dad taabic u ah oo taageersan dawladda amerika si gaar ah si guudna u taageersan reer galbeedka oo dhan haadihi tacriifuhaa waxay marka u qaybinaysaa kelmaddaasi markii tacriifkaas la fiiriyo caalamka waxay u qaybinaysaa kelmaddaasi laba caalam ayay u qaybinaysaa markaa kelmadda la yidhaha globalization laba caalam bay abuuraysaa marka duwal wax soo saara ayagu oo la yidhaha duwal sinaaciya ama muntija la yidhaahdo lisilac waa duwalka iyagu leh dhaqaalaha oo sancada leh oo baabuurta soo saaraya oo buugta qoraya oo manaahijta dejinaya oo iclaamkooda uu xoog badan yahay oo la doonayo intaasi baabuurkii in laga iibiyo dharkii sameeyeen in laga iibiyo inay iibiyaan wax alla wixii sancadoodu ay tahay inay noqoto dad top inay noqoto loogu talagalay top inay noqoto yacni beri 86 yaan anagoo fasax ahaan xaaskii waxaan isu raacnay qaahira taan ka tegay riyaad markaasaan dukaan soo galay wiil yaroo oo masrigu gadaayo oo gaal ah markaan dukaankii soo galna oo yidhi waxba ha ka gadanine dukaanka soo gala oo fiirfiirsada adinku kaligiin cabbaar markaan dukaankii dhex joognay ayaan shaar saa u soo qaaday markaas wiilka yarka inta madaxa saartay buu shaarkan mid ogtay waxa sameeyey buu saana may markaasuu yidhi haadaa sunci faransi faransa lagu sameeyey buu kan faransa ma taqaanaa buu yidhi mayaan idhi waa dawla Orobiya waa wiilkoo 10 bal waxaan doonayaa waxa oo soo ka haysta inaan fahmo faransa waa dawla Orobiya buu yidhi dawla Orobiya macnaheedu waxa weeye yidhi dawla sanaaciya weeye buu yidhi dawla sanaaciya macnaheedu waxa weeye dawlad horay u martay oo aan la gaari karin weeye buu yidhi marka shaarkeedu wax la mid ah ma jiraan buu yidhi shaarku iga gaday waxay tiri wiil yar oo 10 jir miya anaga sidaa noo dhacay imanka waa yaab xaaski intay ku qosashay macnaha waxa weeyaan in la sameeyo oo baabuurkii la sameeyo dharkii la sameeyo kabtii la sameeyo maacuunkii la sameeyo oo air conditionkii laga gado oo marwaxadii laga iibiyo lagu yiraahdo waxa sameeyay reer galbeed baa sameeyay America samaysay iyo Europa iyo dawladihii laga gadi lahaa marka waxaas oo aan loo ogolayn inay samaystaan midida ay ariga ku qashaan inay samaystaan looma ogola caalam aan loo ogolaanin oo kale inay midida ariga ku qashaan inay samaystaan aan loo ogolayn maxaa yeelay mididii reer galbeedkan gadmayn haddii loo ogolaado inay samaystaan marka caalam oo suuq ah iyo caalamkii suuqa wixii lagu gadi lahaa soo saaraya macnaha dawla oo ayadu ah suuq ummad suuqa iyo ummadii suuqa wixii lagu gadi lahaa keeni lahayd in loo kala qaybiyo caalamka sidaas ayay u kala qaybsan tahay marka waxa weeyaan haddaba ummadahaas mustahlikada marka thaqaafo ma lahan baan dhir waa laga baabiyey thaqaafadii hawiyad ma laha khusuusiyaad ma laha mufakir looma ogola waxba looma ogola nin la oran jiray Richard Hobot la oran jiray oo reer galbeed ah ayaa wuxuu soo saaray kitaabkan leeyahay kitaabkiisa kooda globalization ka soo saaray marka wuxuu yiri kitaabkiisa globalization ka wuxuu ku yiri globalization ku waa wixii aan diyaarinay buu yiri anagu waan u diyaarinay caalamkii saddexaad wixii la dhihi jiray dabcan caalamka saddexaad macnihiisu waxa ahaa caalamka koowaad waa reer galbeedka caalamka labaad waxa ahaa reer bariga iyo shuuciyadu ahaa caalamka saddexaad wixii ayaa ka soo haray ahaayeen la qoodiyo markaasi ama la gumaysto ayay ahaayeen marka wuxuu yiri globalization ku waxa weeye buu yiri waxaan u diyaarinay caalamka saddexaad aan u diyaarinay weeye buu yiri waxaana weeyaan aan ciddatu quruun ayaan u diyaarinay buu yiri yani several centuries ayaan u diyaarinaynay arrinta ayada inaan ku dabaqno ayaga korkooda marka wuxuu yiri
أو أسوق سوق الشيء in bracket العولمة أما globalization is the new imperialism بوي مركا وحويان بوي جميسك عصب استعمار الجديد يعني globalization معناها استعمار الجديد للشعوب وماذا إن لجميسته استعمار عصب إن لجو جميسته وكد وانكيه رتدتك أي قانين وسيدا سوري كلمة اللي هذا globalization وسيدا كلمة عولمة عرفت أيوب بحيان أفضل كصومالي أما كل أما هكورنن كل كوحويان كلمة اللي globalization تعريف كذا خاص كاهي وحوي استعمار الشعوب الجديد marka waxaan ka hadli doonaa dhowr arrimood waxaan ka hadli doonaa majaalka siyaasiga majaalka iqtisaadiga majaalka ijtimaaciga majaalka thaqaafiga majaalka meel kasta ay soo gasho diiniga waxa ay ku leedahay ayaan wax ka taaban doonaa haddii aan la yiraahdo iqtisaadka markii la yiraahdo iyo fogaanshaha iqtisaadiga oo ay leedahay kelmaddan la yiraahdo economic globalization ka la yiraahdo waxa weeyaan majaalka kaliya oo ay ku midaysan yihiin tacriifkiisa umamul muttaxida ay u sameeyeen definition ay isku waafaqsan yihiin ay iqtisaadka kaliya ka sameeyeen laakiin inta kale to maraykanku definition ku asaga u sameystay weeyaan waa majaalka kaliya oo ay ku midoobeen tacriifkiisa oo umamul muttaxida yani hay'adeeda la yiraahdo UNITAD markii la sameeyay ama idaarada nidaamka idaariga ah ay sameeyeen tacriifkeeda oo ku saabsanaa markii horeeto in laga shaqeeyo maadaama dadku ay u qaybsan yihiin wadamada waqooyiga iyo koonfurta wadamada saboolka iyo wadamada qaniga waa idinkan iminka maqlaysan daa'iman G8 summit ayaad maqlaysan wadamada ayagu waa muntija wadamada ayagu silcada la weeyaan wadamada dhaqaalaha la weeyay wadamada ayagu doonayay inay hogaamiyaan toddobay ahaayeen ruushka lagu soo daray si madaxa loogu weyneeyo maadaama asagu waa faqiir iyo wax la taraya hada jeer laakiin waa lagu soo darsaday nidaamkaas marka tacriifkiisu wuxuu ahaa asaaskeedaha ee la sameeyay dhaqaalaha in lagu sameeyo globalization ayadoo markaas la doonayo ixtikaarka ay reer galbeedku ku hayaan in laga qaado dadka wuxuu ahaa in suuqa la furo oo suuqa laga daayo saytarada lagu haayo مثلا waxaa jirtay wadamada khaliijka oo kaleeto ama Saudi Arabia oo kaleeto ninkii yaqaana waa yaqaana hal komba oo wax lagu ama cunto la yiraahdo yani 90% wuxuu ka imaan jiray wadanka Mareykanka baabuurta ayagu ay haystaan inta Japan keenamaan wuxuu ahaa qalabkiis oo dagaal lagu jiro hadii jaraale wuxuu ka imaan jiray baabuurta Ameerikaanka iyo reer galbeed marka in aswaaqda la furo oo dadkii suuq xor loo sameeyo lana yareeyo sultadu ay ku leedahay dawladuhu ay ku leeyihiin xarakada dhaqaalaha ay ku leeyihiin ama socodka dhaqaalaha ay ku leeyihiin khaasatan الرؤية الشمولية للعولمة markii la soo qaado ama la soo qaado globalization ka wuxuu ahaa توجه عصب oo ideology ah liberaaliyada jadiidka aan lagu sameeyo ama xurriyada cusub lagu sameeyo ama waxa loo yaqaano free liberalization in lagu sameeyo taasoo ayadu rakisaysa hada jeeraale qawaaniinta suuqa yani suuqa qof walba inuu keensado oo ogsoontiin petrolka Saudi Arabia ay soo saarto petromin waxay soo saarto looma ogoleen wadamada reer Yurub in la keen lama ogoleen laakiin ayagu inay soo qaataan oo ay ku dhajeen label iyagu leeyihiin oo lagu iibiyo Kuwait 8 baad ku arkaysaa marka tagto meelahan wadamadan oo ay kamid yihiin mesela Talyaaniga iyo Kuwait 8 baad ku arkaysaa Kuwait 8 macnaheedu waa petrolka Kuwait weeyaan Kuwait ayay soo kala qaadeen Q iyo 8 bay ku qoreen waa petrolka ay lahayn Kuwait laakiin magac kale loola baxay dadkuna uma yaqaanin sida petrolkii Liibiya sidaas oo kale tamwal ayaad ku arkaysaa hada jeeraale petrominkiisi iyo dhaqaalihiisa dhan iyaga soo qaatay magacooda ay ku dhagsadeen wax allaale waxay ku leeyihiin kuma laha 30% kuma laha waxa buntijaad iyagu ay leeyihiin waayo suuq ayaan loo ogolaan on xor u ahayn iyaga yani aswaaqda lagu iibsado petrolka sharikaad carbeed intay soo qaadaan petrol inay ku iibiyaan habeenkii xalay ay taga weeyaan laakiin petrolkooda sharikada inay soo qaadaan Mareykanka ay soo qaadaan reer galbeed inay soo qaadaan iyagu ku kala iibsadaan waa la ogol yahay taa gadaalna loogu celiyo wax yar oo aan macna lahayn markii la fiiriyo 10% wixii laga helay meeshaas marka waxay doonayeen runtii in badan laga shaqeynayay in suuqa laga dhigo open market in laga dhigo oo laga saaro saytariyada ay ku haydaan ama dictatorshipka ay ku haystaan suuqa in laga saaro oo marka xurriya mutlaqa loo sameeyo intiqaal albadaa'ic in la sameeyo iyo maalka iyo ashkhaastuba inay ka faa'iideystaan macluumaadka iqtisaadka ku saabsan in la helo
oo daa'iman marketingiga waxaa la yidhahda gacanta ku jira reer galbeedka ku jira maraykanka iyo yurub ku jira in lala wadaago oo dadku ay noqdaan sheerkooda inay ka qaataan ayuu asaaskii loo sameeyey fikradda dimuqraadiga ah iyo bucdiga siyaasiga ah iyo mafhuumka xurriyadda iyo sinaanta in la sameeyo iyo maanta markaysa ijtimaaciyadda intaba in dadku u sinmaan nidaam caalami ah oo kulmiyo weeye nidaamka majaalka siyaasiga ah iyo fikriga iyo dhaqanka iyo wada noolaanshaha iyo taswiiqa waxa la yiraahdo iyo communicationka ama dadka oo isticmaala yani adduunka maanta waxa la raadinaya in la sameeyo dadka inay helaan qanaah fadaa'iya مثلا oo lilitisal ah oo aanay lahayn مثلا sida telesaad oo kale aanan ahayn ama telecommunicationka maraykanku ay haystaan iyo yurub laga isticmaalay aanan ahayn ee caalamka kale ay qayb ku leeyihiin in la soo saaro ujeedadu waxay ahayd markaa in qolo walba bidaacada iyadu ay leedahay ay ku noqoto maanta contribution inay ku yeelato suuqa caalamiga ah taxdiidkiisa inay qayb ku yeelato waxay fikrad marka cabiraysa inkastoo loo ogolaanin sidii loo asaasay fikradda cawlamada la yiraahdaa ama globalizationku waa fikrad iminka u adeegaysa inay Amerikaanku ay saytareeyaan السوق العالمي inay iyagu saytareeyaan waxayna ku saytareynayaan dhowr arrimood waxay adeegsanayaan dhaqaalahooda xoog leh inay adeegsadaan طبعا dhaqaalahoodu wuxuu ku taagan yahay dhaqaalaha wadamada carabta ee batroolka la inta badan yani misaal yar baan idin sheegaya markii Saudi Arabia la soo qaado la yiri mesela aan kala goyn ay yiraahdeen maandhow Mareykanku inta batroolka la anagu aan qabsano inta kale tii Urdunna la isku daro ay soo jeediyeen arrinta ayada ayagoo leh inuu batrool gacanta u galo terrorist ma ogolinin dawladda Saudi waxay soo saartay in la dhimo suuqa waxay keeni jireen Saudi Arabia 3% inay dhimaan يعني سيدي أقول شيء مريكان كوح you can't imagine ما قياسي كاري سيدي أقول شيء دقالها مريكان كارنتا يا واسطة حلا باتم بقول كيبا فما بالك هذا يريد كل جسم نجتو شيء هذا يريد ما حد ما له نسام مركا أما وكوسو دولة نبرق قبسنا يان أما أيجا أيا بريوتهم الدون والسياسة ده أيه وحكي بدر لهاي لكن ده كذي ولي مجوجان رنتيتها مركا وحويان فكرة داس أو أي دقاله ده يوكو سيطرين يان سياسة ده إني أديك سدان عيدن كود إني أديك سدان ثقافتooda inay adeegsadaan yani allies ciidankooda ka baxsan inay caalamka ka sameeyaan waxa la yiraahdo military allies inay sameeyaan ama alliance inay sameeyaan yani military alliance ama allies midka tiraadidba inay sameeyaan ayagu sida xilfigii hore to NATO oo la xoogaysiyo oo lagu soo dara xataa ruushka naftiisa hadii la rabo iyo maanta in la adeegsado fikrigii naftigiisa in la adeegsado أحلافتا كلاتو عصوبة إمن كلا ذيك سدول ليه عالم كإمن كيوروب ودن ليه وين الألاينس إن الله نقطنا نجا سيدا بريطانيا وكالاتي وحي لمدة طبعا دولة ذكرية مقاومة كوها يساسا وكسونتين مريكانكا والدولة الفرنسية يدا هورتاجن وحنا كو هورتاجن تاليانو ويوجين حقيقة waxa uu sameynaya inay tahay in luqaadka oo Faransigu ku jira xataa in la tirtiro dhaqanka iyo caadadka ay weli in la tirtiro ma aha naxariis cid kale ay u hayaan laakiin iminka waxay ku soo taageen leebkii luqunqala ay ku yihiin Mareykanka oo xataa mamnuucayaan waxyaalaha isagu uu leeyahay inuu ku qooqo sidii uu mamnuucay bari maalmaha kamida François Mitterrand jiiniska oo Mareykanka in laga xirto wadanka France in laga xirto oo mamnuucay oo kale waxay sameeyeen oo kaleeto أحلاف كليتو مركز كاس واحد في عسكرية ودكسونتين إمنكا إن لسمي ودمدا عربت لقى سمايسته حتى مصر يا سوريا يا ودكسونتين بريجي إن لقى سمايسته مركي ميلو دولة مسلم ليه هي إن لسكول لفاقه ودمدا مسلمين تعقيب كميدا خاصة عربت إن لسكول لفاقه دائما لو أديكسدو وحتى أو جاري مرة كميدا إنه يراهدو مصر يا سوريا يا أنو أديكسد السودان كدول كذا إنه أديكسد أو يري أيده نو ما دعك تاس مركو حسمينسو بركي العراق وشلو أديكسدي markuu wuxuu ogaaday inuu ku najiixi karo markuu shalay ku baabashay Ciraaq ayaga naftigoodii jiritaankoodii Saudi Arabia iyo Qatar iyo baysaskoodii isticmaal kulli wuxuu ogaaday inuu ku isticmaali karo Yemen inuu ku baabayn karo Suudaan wadan alla wadankii oo doono inuu ku adeegsan karo asagoo wato alliance-ga samaysanaya marka ma aha inuu xoog ayaga uga baahan yahay waxa weeye inuu ugu gogol xaaro ama irido ugu banaysto waxa uu sameynaya okay inuu uga helo kaliya inuu doonayo taas waa xilfiga askariga ah ama alliance-ga oo military alliance-ga la yiraahdo inuu halkaas ka dhisto wuxuu sameeyay kala tinta kuma koobanin wax la yiraahdo yani political alliance ayuu Mareykanka sameeyay political alliance-ga marka wadanna wuu u soo maraya meesha uu ka fulinayo oo kaliya waxa waa United Nations ka weey iminka ma jirto United Nations ka qawaaniinta markii la aqriyo lagu asaasay ama boorka lagu asaasay
10% kama shaqeeya iminka sidaad ogsoon tihiin butrus qaali iskaga hor yimaadeen isagoo gaal ah weliba iyo iskaga hor yimaadeen waxay iskaga hor yimaadeen maanta waxa yeelan ninkan ay ku adeegan Kofi Annan inuu maanta asagu u baahan yahay ayay ogaadeen marka sababta loo tuuray butrus qaali oo hal sano kaliya hal term kaliya loogu ogolaaday inta kan loogu diiday waxa uu yiri waxaan aad samaynaysaan totally wax ka soo horjeedaan nidaamkii United Nationska loo asaasay maadaama asagu uu ka warqabo oo dadkii maanta markaysa siyaasi u yahay asagu dhigi jiray political science waxay sameeyeen marka in axlaaftii siyaasiga ahayd ama gaashaanbuurtii siyaasiga ahayd inay ku fuliyeen United Nationska wixii Mareykanku aanu ogolayna veto oo saaro wixii kaleetana uu yiraahdo ciddii fikradeeda ka soo horjeeda anaga cadow nala yihiin inuu sameeyo that's it period ciddii fikradeeda ka soo horjeesta cadow bay nala tahay marka maanta waxay noqotay wax la yiraahdo United Nation ma jiraan waa United States of America ayaa maanta wadata magaca ayada ayaana doonaysa caalamkii oo dhan inay marka magacaas iyaga ku adeegtaan sidaas ayay ku socotaa waxay sameeyeen oo kaleeto axlaaf iqtisaadiya oo fara badan sida munadamaat dawliya adogtiin ama waxa loo yaqaano WTO waxa la yiraahdo World Trade Organization sida ogsoon tihiin World Trade Organization طبعا waan ka hadli doonaa waxyaalaha oo ku salaysnaa iyo meeshuu maanta marayo iyo wixii markii hore loo asaasay dadkii qofkii oo garanaya hadii kale waan tilmaami doonaa daa'iman mudaharaadka adduunka lagu sameeyo meel kasta maanta aad u jeedaan WTO ama World Trade Organization ilaahum baa qiyaasi karay wax alla wixii dhaqaala oo maanta Mareykanku oo fulinayo World Trade Organization ayuu u maraa cid kale uma maro ayada ayaa lagu fuliyaa hadii diyaarad la sameeyay hadii baabuur la sameeyo iyo hadii منتجات kala la sameeyo iyo hadii computer la sameeyo iyo cid walba sheerka loo ogolaanayo iyo sida suuqyaalka loo ilan kulligoodo idil taas oo maanta u adeegsaday marka ilaa ay functionkeedii oo ka dhigay dismantle oo ku sameeyay yani dismantle waxa weeye inuu inactive ka dhigo ayada dhan sidoo asagu doonayay qawaaniinteedii nidaamkeedina oo baabasho cala jambi yiraahdo sidoo asagu doonayaan iminka uu qadimo nidaam cusub oo markaas ku shaqeeyaan wuxuu sameeyay markaasi ayadana أحلاف أو اجتماعية أيو سميي اجتماعي قاسو سمينا يوحا كمدا منظمات كدولية أما مؤتمرات كدولية إنو سميو إقليمية إنتبا إنو سميو أحلاف وحو كالتو سميري أما alliance أو فكرية أيو سميو عصب أساقو سمينا يا قوانين تا إمن كدولة ذا يا اتفاقيات كيلا سميي يا سكوكتي كلا كالتو دولية هيدو دون كل جيت إنو مجال كاساقا وادي يكسدو وح الله وحي ودمدو أي قالين هشيس ودن كل جود وحو كسميي وح ليرادو review ayuu ku sameeyay wixii asaga aan munaasib u ahayn review buu ku sameeyay oo waa reject gareeyay dhamaantood waa diiday waxa kamid ah axlaaftii islaamiga ahayd inuu maanta sameystay yani waan idin imaan doonaa si aad u wada garanaysaan idin kugu sheegi doonaa dhamaantood mid mid wuxuu sameeyay inuu sameeyo oo ka dhigo unite gareeyo waxa la wixii munadamaad islaamiye jiri ama organization oo information ku saabsanayo dhan kulligood inuu sameysto sida shabakada internetka iyo shabakaadka oo maanta markaysa telefisyoonada ogsoontiin dhamaantood cawlamada sidaan u sheegnay waa isticmaalka cusub ee adduunka loogu adeegsado ama globalizationku nidaamka cusub oo adduunka lagu adoonsado oo lagu isticmaalsado oo u munaasibka ah sanadka 2000 u munaasibka ah sida ogsoontihiin waa ciqdi cusub oo la bilaabay markii dagaalkii labaad ee adduunka uu soo dhamaaday 45kii nidaamkii la bilaabay nidaamkii hore United Nations ay ku socdaayay ahayd waa lagu soo mooday ama nisful qarni ayaa lagu soo mooday waxay bilaabeen marka sanadka 2000 nidaam cusub oo ka duwankii adduunku ay ka caado yeesheen in la sameeyo oo intaas ay dadku jaahilka ka yihiin ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan marka waa nidaamkii cusba oo ummadaha lagu isticmaarsanayo isticmaalka cusub caalamka ka dulmudan lagu sameeyay oo ka duwankii horeeto laakiin ka xanuun badan midkii horeeto askarta loo diray ka xanuun badan dood ayaa marka ka furan halkaas globalizationku صحيح waa nidaam isticmaaro jadiid oo cusub laakiin muxuu faa'iido leeyahay muxuu khasaare leeyahay badan oo inta ka badan adduunyada gumaysay صحيح laakiin wax kale oo faa'iido ma leeyahay muxuu dhibaatadiisu tahay dadkii waxay u qaybsameen laba kooxood طبعا markii loo noqdo academical discussion marka loo noqdo ama nidaamul academy ama jaamacadaha ama system marka loo noqdo wuxuu noqday in la yiraahdo dibna waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay marka qaarkood waxay leeyihiin nidaamkaasi daahiradaas ama phenomena waa phenomena cusub oo itijaaheeda fitriga uu yahay in ay la tamaacusho ama ay la dhaqanto waxa bani aadamku u baahan yihiin cusub iminka inay la dhilgarayso loogu talagalay weey
تطورka sinaaciga ah la socota مثلا تكنولوجيا كمبيوتريسكا أقمار صناعية إنترنتكا وحن ما أنت تفائدة بدنا إلى هذا هاي مركب وحي كجواب يسارنتي هباء هاتو أو مركب إنترنت وحي كو أديكتنها هات مخابرات كمرايكنكو لكن ما أنت وحي نقضي فيلد فرن أو ننكستا ما أنت وكو أديكسن كارو أي نقطي أي يراهدين مركب وحي يراهدين تطور كصناعي أي تكنولوجيا أي لسعوتا مجتمعات كعصب ودونك مركب ومظهر أما وفينومينا oo ka mid ah phenomenada sinaacada iyo tijaaradu ay keenayso oo xadaarada dabiiciga ah ee casriga la socota mujtamaca technology-giisa maanta looga faa'iideysan karo waxaana maanta taalabay leeyihiin xadaaradaasi inay saytarayn karto mujtamacaadka xadaarada yar inay saytarayn karto yani wadamada xadaarada lihi inay saytarayn karaan mujtamacaadka xadaarada yar si suhuula inay ku saytarayn karaan oo ra'yigooda lagu qaadan karo oo fikrigooda lagu qaadan karo dadkii meesha way iska taagtaagan yihiin laakiin wax kale oo dhibaato ay leeyihiin ma jirto maskaxdoodii iyo aqligoodii iyo intaajkoodii kulli waxoodii oo dhan annagayna soo raacayaan marka faa'iiday leedahay waa field cusub oo dadkii ku sii deynay oo soo xambaaraya sidii dadka biyaha dadka xambaari jiray oo kaleeto ay qaar badan oo reer galbeedka ay ku doodayaan daa'iman marka jaamacadaha laga doodayo bisifatin ukhra markii la fiirsho nidaam ra'simaali ah oo aad iyo aad complete away bayreen ama aktaru takaamulan oo aad iska buuxin og waa nidaamkaas marka waa nidaamkii ra'simaaliga ahaa oo dawladda yar ku koobnaa iminka caalamka oo dhan aan gelinayna caalamka oo dhan kulligood ayaan soo saytaraynaynaa ayagoon cidina diidi karinin saas ayay la taagan yihiin taas marka waxay keenaysaa bay yiraahdeen inay kulmiso nidaamkan globalizationku inuu kulmiyo technology-ga iyo maamulka ra'sumaaliyadda oo dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo thaqaafaddii iyo ijtimaacii iyo xataa curfigii dadku ay ku dhaqmayeen cultural social cultureskii iyo wixii oo dhan ay qaadanayso in la asaaso oo dhan caalamkee laga dhigo qarya iyada dhan oo electronic oo jadiid ah oo ku dhisan thawraddii computerka iyo itisaalka maanta cusub iyo macluumaadka iyo suuqa maftuuxa open marketka ku dhisan sharikaad in la sameeyo قانونكودي سياسدودو أنا قعنت مريكان كبحين حتى أي يوروب مركي يقول لي بدرجة ثانية أو متعددة الجنسيات اللي يراهدو أو عصب إن هذيك سدان نظام كاس أساقع لصوم ده مصير كبني آدم كنا هالميل لسوس وشوف يعني بمعنى آخر ديمها إن لقوا بابي إكره نظام كاس إن لقوا بابي إكره رأيك كلا جديسان لقوا سو توحيدين كردات كذا نسكو هالميل لقوا ورابي كردمان ترأيك وده لقى هاجي كره dhaqankooda in hal meel laga abuuri karo dharqaadadkooda hal meel in laga abuuri karo cuntadooda hal meel in laga abuuri karo yaali bisuhula yaani nin la oran jiray Watson code and code markaan psychology-ga baranay yaa waxa jirta laba iskuulo yaani la yiraahdo nature and nurture la yiraahdo ayaa jirta waxyaalaha dabiiciga originka iyo waxyaalaha la sameeyo nurture-ka wixii la sameeyo way nature-kuna waxyaalaha طبيعي قوي بمعنى آخر environment تيجا واحد اللي يراهدو أو society تيجا يو origin كقفك اللي يراهدو أما genetical case كل كواحد يهين ضد وحويان قف كان بني آدم كدقن كيسية تعليم كيسية أقون كيسية وحيسة مهرد التبع أو واحد دحلو وراثي مية مسوا واحد كسبته شقي سنكرة نواتن اللي راسو بدو وحويري وعلى وحي كل هذا جينيتيكال ما جرتو qofka bani aadamka saan anugu doono ayaan u sancay karaa buu saan anugu doono ayaan ka dhigi karaa buu waa school dhan oo la yiraahdo environmentalist la yiraahdo yaani wuxuu yiri anugu haddaan soo qaado regardless cidoo ka dhashay cidoo yahay haddaan dabco inaan tuug ka dhigo waa ka dhigi karaa buu maxaa yeelay waxaan geynayaa mujtamac tuuga akhriyaan ku dhex beeraa buu sida wax loo xado professional aan ka dhigaa tuug aan ka dhigaa buu adduunka daan doono haddaan doono inaan ka dhiga buu yiri lawyer inaan ka dhigo واجيها مال قانون كمان واحد كله لوجه هذين جيها وير أتذكر دم قانون كتير جرين أيوه هدان ربع إن كده جابوا يور طبيب إن كده هدان دون أيوه وحنجينا ياهو طبك كليم مال لغو برتنجينا يعني بأدي دت كانوا جيو يلقب سنة يابو هدان توجا وجاي توجبوا نقنايا هدان وجاي يابو يور ما أنت ماركيسا واحد قريبا أو ما أنت ماركيسا دين عصودان الجرين قلادن كده راح بصباح قف كسان دونه يعني أنا وويل بيور قف ماركي دم ويل وحي لغو شبو قفكاسي أيو علينا يابو وحي لغو شبو قفكاسي يو علينا
فكرة مركا ما أنت اللي globalization كا وفكرة دي واتسون أو كلا توي مركي لفير بطريقة أخرى وحالي شعوب عالم كو إدل ملك سهجو جنا دونك وحن لنا عنتظر مرايكن كأوقف عن ماكدونالد كأوقف عن همبرجر كأوقف عن وحن لنا وحا أو بيتزا كأوقف عن بيتزا أوقف عن وحوقف عن همبرجر كأوقف عن وحن لنا ماكدونالد كأوقف عن عنتا كلا تجرتها مجرتو وح كلا تصعنا مجرتو فرنش فرايس كا برجر كا ما أنت سيستم كان نجا عن وضعنا بيبسي ده أو عبي واحد لعبه وقف على بيبسي ده يكوجا يوقف يعني لأن بيبسي سأل صونتي محيوت أجنت هاي كلمة بيبسي اللي يرهدو they every penny supporting to إسرائيل واسيداوي مقعد they every penny supporting to إسرائيل support to إسرائيل بيبسي واسيداوي هذا أكهد أنا تاقوش غيني ست وأيتها الشركة اللي قوديو إسرائيل أيها هدنا نقف كستو أنك نجمده جوري سو كعبيا سوق وكجدنا يا بابوركو كسيتا وحول بودن وحن تاجرين مركز دمان تيا إسكده فويات كوي حويري قيل سموه سلام بهنا وفي عن تعمتها الإسكجد جيا يلا واتسو جوري كستو يسعتها كوك كذا واسيداس وي دمان توت كوك وقرنا يسعندو وها مركز دمان توت waxaan cabaynay waxaan cunaynay ilmaheena kulli waxay wada doonayaan inay hamburger iyo McDonald's iyo inay wada cunaan bay doonayaan waa suuq la sameeyay laga dhaadhiciyay TV ku xayeysiinayo haday tahay mid lagu dhinto oo bakteeriyadu ka buuxdo oo 10 sano ay kaydsaneed ma noo socoto mid anagu aan karin guryaha nooma macaana waxa noo macaan mid oo midabka inta la mariyay TV laga xayeysiiyay ee sida loogu fulinayo jeaniska midkooda soconaya baabuurka midkooda soconaya TV-ga midkooda soconaya air conditionka kooda soconaya funaanada kooda wahalu majar waad garanaysan moodada waxa la yiraahdo gadaal baan kaga imaan doona insha Allah taala nidaamka kaleeto oo meesha ka taagan marka hadanana waan soo qaadnay معلومات كاس يسوق قاس فرن مانتي شركات مانتا la sameeyay ee tawxiidka masiirka bani aadamka masiirkiisa dhan iyagu xadidaan loogu tala galay waxa weeyaan nidaam loo adeegsado oo maanta lagu wato idan waa nidaam suura gelinaya in lagu guto muraad fara badan oo asaasaya nidaam maanta markaysa cusub tiknoolajiyadana loo adeegsanayo marka waaqiceedu uu yahay in caalamka oo dhan lagu saytareeyo dhinac kasta oo asagu jiro in lagu xoogo oo lagu adeegsado waxaan marka ka hadli doonaa hadii mustaqbalkii waaqic cawlamada uu sidaa yahay cawlamadu marka waxay qabaan qola kaleeto inuu yahay nooc cusub oo xadaarada kamida oo Mareykanku ay wataan iyo xulafadiisa reer galbeedka waa caqiido cusub oo lagu saytaraynayo isticmaalka adduunka la rabo in lagu fuliyo marka maxaa laga yeeri karaa ayay noqonaysaa cawlamadaas marka ama qawaaniintaas ama globalization kaas aynu iminka soo sheegnay ee duwal qawiye ay adeegsanayso biqiyaadada Ameerika iyo Awroba oo ay ku saytaraynayso ku hagayso xoolaha ay haysato xadaarada ay haysato shucuubta daciifka taagta daran ay ku fulinayso hadii jeeraale ayadoo adeegsanaysa wax alla wixii ay haysato oo idil dhamaanteed wax alla waxay xoog haysato oo idil dhamaanteed ku fulinaysa yani ninkii la oran jiray William Jefferson wa Bill Clinton ayaa wuxuu yiri Ameerika waxay rumaysan tahay markuu asagu ra'iiska ahaa Ameerika waxay rumaysan tahay buu yiri qiimaha ayadu ay leedahay iyo wax alla waxa ayadu ay haysataa inay saalix u yihiin كل العلوم كل الشعوب العالمية شعوب عالمية أو دن وح أمريكا هيستا إني صالح وتها إن لجفولي وح الله وح أمريكا أي تدقن كده هذا وح كوتشر وح الله وح يقربنا يجو وح أمريكا أي هيستاهي دقن كده يقيمه هذا يوح أي هيستاهي صالح بيجيهنا ويري أدونك أو يدل دمانتيس إن لجفولي شعوب عالمك مركز سيدا درت هذا بوير وح نجو واجبه ويري إن درينا بوير أما أن قادنا بوير مسؤولية داس إن حنبارنا يا واجب نواه التزام كاسون ومقدس بويرو ومد مقدسة إن عالم كودن لسوء وريتشيو أو صورة دنا عن كدق نبويري سيدا أنا أنا إن العالم كودن كدق نسوء وريتشنو معناها دمانتود إن الركوعان ويسجودان أمريكا إن لجالسيو
majaalaadka marka ay leedahay nidaamkan globalizationka aan mid u soo qaadno marka si aan u fahamno dhammaantaya majaalka iqtisaadiga ah dabcan waxay ku rikaysan tahay sidaan soo sheegay repetition weeye in suuqyaalka la mideeyo dhammaantood wax alla wixii oo obstacles ah ama caa'iqa oo hortaagan yani waxaan dheelaa wixii oo dhibaatooyin hortaagan in la zuuliyo oo amaama tijaara alcaalamiya dhammaanteed dadkoo dhan ay u soo marto xarakadaasuna ay socoto tijaarigaahi laakiin ay noqoto meesha laga go'aan gooya ay noqoto maraykanka bidaraja uula laba ay noqoto waddamada reer galbeedka xarakada iqtisaadiga ama dhaqaalaha ee la wadana inay noqoto ayaga saalixooda inay ku socoto keliyata in laga dhigo lacagta adduunka lagu qiyaasayo oo dhaqaalihiisu uu ku socdo lagu jaangoynaya dollarka maraykanka inay noqoto meel kasta tag adduunka lacagta maanta adduunka lagu jaangoynaya oo lagu dhaqmayo waa lacagta dollarka maraykanka weeye ليه إلى هالدير ولا جوجو ولذلك الرياكشن كي كبحيان مركي أوجادين إن اللي يري العقد دون كل $1 كان نقطه وادركتين يورو بدون تسوت كده يورو عن سما يستنى واحد يراه لكن ودماد المسلمين تو اسكهر دان أيجو هل كودي اسكي يالان لبدا ودنا اسكودو واسكودين تا اسكود دقن كاسكو عاد اسكود لقدا عربت اللي راحتين العقد ودي مداير ما أقوله لكن لو ما أنا أقوله أيجو إنه كفكران هذا يكون فكران الله ما أقوله إنه كفكران مركو الله ما أقوله يعني إن الدينار سوق جيستان يين درهم سوق جيستان يين الريال سوق جيستاني من اللي ما أنت لقى ما أقوله ما أنت أنا يوروب وحير هدين سيان مرايكن كإسكجعل إنه من اللقاء إسكجعل إنه وين العكس ما يسنى يورو أي سمايان ما أنت أقوله ترتميان أيجو أن استعلانه إسنعب وحسيد أوجيله وحويان أنه سيدا سمينه محايا الإنجليز كمركي لقى ريبه أنت يدك اللغة يد واللاتين مركي اللغة يد ما دام أي لاتين تهي وحدوني اللغات كنا إنه بابيو دونية marka sida darteeda lacag kale ta aan sameysano oo mid ku nahay ayay iyaguna la soo istaageen oo soo jeediyeen mujtamacaadkaas in la qaybiyo oo mujtamacaad wax soo saaraya kuwa lagu halaaga in laga dhigo waa intii aan horay u soo sheegay duwal daciifa marka inay noqoto suuq daa'iman waxna aan soo saarin asagu aanan kuna fakarinin hal warshadana aanan dhisinin wax ugu yarna aan soo saarin weligoodna ay ahaadaan dukaanka alaabta la dhigto inay iyagu ahaadaan oo wax lagu gato laakiin wax kale ta aanay ku fakarinin waa in loo soo saaraa moodaadka baabuurka moodada maalin waa in loo soo saaraa magac waa in loogu soo bixiyaa maanta shaarka waa in loo soo saaro in magac loogu soo bixiyo jeaniska waa in loo soo saaro suunka dhexda ku xiranayaan waa in loo soo saaro loo xayeysiiyo haweenaydu maraday xiranaysa waa in loo soo saaro kabtay xiranaysa waa in loo soo saaro xataa waxay gaareen maanta inay gaarsiiyaan nigiska hoosta lagu xirto gabar iyo wiilba in la yiraahdo banaanka soo dhigo isqaawiya caloosha baneeya si ay soo dhigtaan nigiska banaanka in la gaarsiiyo waa suuq waa marketing weey waa marketing طبعا marketing muxuu ku xariiran yahay oo ku xiran yahay dharkana in laga dhigo at the same time ay ogaadaan inay ku furi karaan wax ayagu ay doonayaan inay ku furi karaan dadkan inay tusiyaan maanta ay to waxa weeye caloosha dharka u banee ee candhada u banee tinta wax walba u banee yani waxay joogan maanta in la yiraahdo nigiska ugu yar oo hoosta ka gashato banaanka soo dhig maxaa yeelay waa qaali si loo arko marka soo dhig banaanka waa darajatul xayawaanaat in kada loogu celiyo khalqigi maanta ay to يعني هنديان ku caay jirnay oo caloosha banaysa jiray laakiin maanta in sida lagu sameeyo 100 kolmood loo sameeyo 100 dhigood loo dilaaciyo oo 100 san loo diro 100 caloosha looga mudo oo 100 bawdiyaha loogu xiro waxaas aad u jeedaan kulligood aad u jeedaani waa globalizationka waa systemka la wado oo la rabo adiga in lagu fuliyo gurigay tagaan reer baadiyaha in lagu fuliyo la doonayo oo nidaamkaani oo salka ku haya weeyaan dhamaantood majaalkaas marka oo socda oo duwal naamiya ama duwalkii daciifka sida loogu fulinayo America iyo Eurobana ay u yihiin kow iyo laba ayagu ay ugu fulinayaan in lagu shaqeeyo waxa la cabayo iyo waxa la cunayo sidaan horeyba u soo tilmaamay sida suuq looga dhigo muassasaadkii marka lagu fulin lahaa dhaqaalahaas waa kuwe muassasaadka lagu fulinayo waxa weeye kowda ugu horeysa sanduuq naqdi dawli ama waxa la yiraahdo IMF International Monetary Fund يعني IMF ujeedadoodu waxa weeye oo u habgaraysantaa ayada iyo banki duwali World Trade Organization intaas oo dhan ayaa loo sameeyay munadamaad badan loo sameeyay si dhaqaalaha adduunka loo kontrolo oo gacanta loogu hayo marka ugu horeysaba maxay tahay IMF ta wadiifadeedu waa maxay taas inaan isweydiina ayaa u baahan runtii sida ogsoontihiin IMF tu waxa loo diraa ayaga
inay waddamada marka horeeto inflation ku kiciyaan inflation inay iyagu create gareeyaan oo waddamada ay u dejiyaan qawaaniinta ay u dejiyaan ay ku fuliyaan siday ugu talagaleen Indonesia dhaqaalaheeda lagu baabaashay Malaysia iyadoo raba afka dhulkan loo geliyo inuu iska xiray Mahathir Mohamad inuu iska xiray waddamadii Soomaaliya oo kaleeto iyo Suudaan oo kaleeto sida loo sameeyay in inflation lagu kiciyo markii la gaarsiyo lacagtooda halkii dollar markii kumanaan la gaarsiyo la yiraahdo lacagtii adduunka suuqa waa ka baxday ma jiri doontaan raac anaga shuruudoodana waxa weeyaan shuruud adduunka ugu xun oo lagu baabiyo waddanka looga dhigo dukun daakun looga dhigo weeyaan iyaga la soo doonto markoo deynka inay siiyaan deynka markay siinayaan oo banki duwaligu sidaa ku fuliyo beeraha laga soo galo tacliinta laga soo galo waxaa la saaraa thiqalka ugu xun oo wax ka bixi kara adduunka ilaahay aan la arkin iyo qoorta loo geliya yani wax maanta dulliga ka dhiga Masar oo intaasoo 80 milyan maanta gaartay dulliga ka dhigay oo diidi kara wax wala haday doonaan waxa weeyaan International Monetary Fund iyo banki duwali qardagiisa keliyata iyo qamadida Mareykanku ay siinayaan iyo dhulka masaaridoo dhan oo yahay dhul zaraaciya sidaas loo gacmo duubay oo loo xiray afka dhulka in loo geliyo maalin walba oo inay kelmad yeelan dartood aynu u nimaana marka banki duwaliga sanduuq an-naqd duwali ama International Monetary Fund waxay ku xiran tahay inay iyagu dabdi ku sameeyaan lacagaha adduunka ama wadamada ay ku isticmaalayaan inay istiqraar u sameeyaan ama istiqraarka ay ka qaadaan inflationka sidaan idin sheegay dukun daakun inay ka dhigaan waddan walba lacagtiisa inay baabi'iyaan oo meel xun uga soo haraan oo markaa la yidhaha waxaad ku qasban tahay annaga sidaan ku yeelan haddaad qard rabto ama deyn aad rabto shuruudan annaga kuu dejino raac sidaas ku qasban yihiin bankiga duwali wadiifadiisu waxa weeye inuu dadka dawladaha lacag deyna inay siiyaan duwal daciifa inay lacag deyna iyo qarda siiyaan inay maanta ayagu maanta markaysaa ay soo darsaan axwaasha waddamadaasi ay ku sugan yihiin oo ay soo aqoonsadaan dacfigood meesha dhaqaalahoodu oo laga kala baji karo inay soo ogaadaan ilaa ay markay soo ogaadaan ay meeshay ka ogaadeen inuu daciif ka yahay ay ka soo kala bajiyaan marka waa soo kala jebinayaan markaa waxaa la hayaa waddamo ay madaxdoodii siiyeen laaluush inay dhaqaalaha baabi'iyaan ay yidhaahdeen intaasoo milyanaan ku siinayna haddaa rabto 1 bilyanaan ku siinaynaa laakiin baabi'i dhaqaalaha jooji sidaad ku wadda ka jooji oo ku raaceen ayagu oo markaa waddamadii dhaqaalahoodii dukun daakun laga soo dhigay nidaamkaas marka waxay u taxakumeen markaasi in ay inhiyaar ku ridaan ama baaba ay ku ridaan dhaqaalaha waddankaasi shuruud marka lacagtii deynka la siinayo shuruud qaasiya oo interestigooda uu caali yahay aanay ka soo kaban karinin inta cumrigooda ka hartay aanay waddanka ka soo kaban karin beerka loo geliyo mar haddii deyn lagu yeesho waa la dullaystay deynka lagu leeyahana aanay marnaba bixi karinin waxa weeye bur weyn oo madaxa looga hayo ama jabal madaxa looga hayo buur oo markii rab lagu sii deyn karo in looga dhigo iyaga dhammaantood munadamada la yidhaahdo World Trade Organization qawaaniinteedu waxay ahayd in ay silaca iyo khadamaad inay samaydo oo ay iyadu kala bixido yani suuqyaalka in la iskala bedesho wixii doodo la isku haysto sidii Brazil iyo Canada markay isqabsadeen diyaaradaha samayntooda isku qabsadeen oo kaleeto inay kala bixido ay fasl munaazacaad samaydo inay sameeyaan in loo soo kala xugun tago la isugu yimaado oo ayagu ay markaas fiiriyaan wixii laga yeeri lahaa waxay isu bedeshay munadama oo kamida munadamaadka environmentiga ama green walada la yiraahdo iyo camalka shaqooyinka xuquuqul insaanka umaasha saas isu bedeshay waxay noqotay waddankiiba in la yiraahdo waddanka ayaan deyn la siinin oo banki duwali u tagto IMF oo yiraahdo waddanka dhaqaalihiisa soo burburiya markii la burburiyayna waddanka deyn ha siinina lacag ha siinina jeeraho aad uga dhigtaan shuruud waddanka siyaasadiisa lagu bedelo waqtin China markuu tagay Canada oo kaleeto mesela waxa la yiraahdo dhaqaalahan kugu tar lahayn waxa ka hor siyaasadda waddankaaga xuquuqul insaanka in wax laga bedelo waa kaceen meel walba waxay yiraahdeen munadamaadkaasi Canada ay dhaqaalaha siinin China ilaa China ay ka aqbasho shuruud anagu aan doonayna ka aqbasho Africa Nigeria la siinin dhaqaale ilaa shuruudayada ay ka aqbasho yani waxay noqotay maanta to banki duwali hadaa tira wala dhaqmaya ama aad tiraahdo World Trade Center la dhaqmaya waxa weeyaan anagu aan ku dejino systemka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xuquuqda waxa anagu aan doonayno aqbal bila shuruud waxa anagu aan diidnana tuur bila shuruud iyo niqaash macnaheedu waa maxay markaa sida anagu aan doonayno mujtamacaas ha noqdo waxa weeyaan sida anagu aan doonayno ha noqdo dharku waa inuu xirtaan dadku sidaan rabno
gabadhaha iyo wiilashu waa in isku fuulaan jidadka dhexdooda diskootayadu waa inay furan yihiin khamriga waa in la cabbayo diimihii la qaadan karo waa in la qaato maanta wax walba wax annagu aan ka doonan waddanka doonan ka jirin maya waddamada muslimiinta ugu horreeya ciddii lagu fuliyey ilaa maanta la gaaray oo la yidhi masar qamxi damba ku sii mayno haddaadan ka saarinin manhajkaaga tacliimiga ah wax allaaliya wixii yuhuudda wax ka sheegaya haddaadan ka saarin oodan qur-aanka ka joojin aad dadka u dhigaysaan aayadaha yuhuudda wax ka sheegay waa fuliyey sacuudi arabiya lagu soo xojisiiyey joojiyaa lay manhajkiina aad dhigaysaan oo kulligiisba violensiga ah joojiya ka saara cadaawadda aa u qabtaan nasaarada yuhuudda ka qabtaan ka saara waanu imaan doonaa sacuudiga insha allahu tacaala iyo dharka iyo siwaaqada iyo modelka lagu fulinayo yacni muqadima yar oo basiida marka munadamadii sidaas ahayd waxay maanta isu beddeshay sidaas inaan dawlad la siinin duwal alfaqiira ama duwalka gaajoon inaan wax daynan la siinin ilaa ay ka duleeyaan oo jilbaha ka qabsadaan waddamada oo ayagoo garguuranaya ay u yimaadaan oo wax walba ayagoo ay yidhahdaan ay yeelaan inaan hal kumi la siinin oo dayn ah ayaa sidaas ayaa lagu qariray waa mabda ay ku heshiiyeen G7 ay ku heshiiyeen weeye maanta maraykanka iyo reer galbeedku ay yihiin in lagu fuliyo wax alla waxay doonayaan caalamka annaga haysana saan doonna waa inaan ka yeelnaa sidaasay taagan yihiin iyaga tan saddexaad way ku adeegtaan majaalul cawlama waxa weeyaan iclaamka iyo dicaayadda adduunka sidaad ogsoon tihiin awdax alwasaa'il ama wasaa'ilka ugu xooga badan ee lagu adeegta waxa weeyaan in la badeecada ay soo saaraan la tarwiijiyo oo meel kasta loo sameeyo sidaad ogsoon tihiin Tim Hortons baa ka mida waxaa ka mida maanta shaay xataa la cabay waxaan la yaabay xajka markaan tegey sanadka soon tago daarta ugu weyn maka ayaa waxaa laga dhisay xaramka iridiis waan galay ma jirto wax franchise la yidhaahdo oo waddamada maraykanka iyo reer yurub laga isticmaalo oo aan daartaa la keenin wallaahi alcadiim inaan lagu arko waa qacri maka xaramka hortiisa weeyaan maka ma jirto wax laga isticmaalo you name it magaca doonta soo qad adugu oo reer galbeedka looga isticmaalo franchise oo aan meesha ku samaysnayn inuu jirin xataa dahabka lagu gato reer galbeedku gataan iska daay market rasmi ah oo xujaajta loogu talagalay intaasoo milyan soo xajina sanad walba inay meesha waxa ku gataan oo magacyadoodii watade second cab wata windy buu wata mataqaana muxuu burger buu wata Tim Hortons buu wata second cab buu wata you name it baan ku wax alla waxa la yiraahdo franchise ama cunto la yiraahdo ama dukaan la yiraahdo oo lagu gado wadamada McDonald's halkaas u yaala waa daarta xaramka hortiisa hadwey ilaa laga gaarsiiyo la yiri sharikaadkaasi dabcan ama iclaamkaasi waxaa socodsiinaya sharikaadkaasi lacagtooda bixiya hadii jaraal iclaamka oo dhan waxay ku tiirsan yihiin waa sharikaadkaas weey tan afraad waxa weeye in la sameeyo si caalamka loo kontrolo oo globalizationka loo fuliyo sharikaad midaysan in la sameeyo ma aanan maqli jirin hadda ka hor sharikaad la mideeyo oo bunuugta ha la mideeyo oo communicationka ha la mideeyo oo waxaan ha la mideeyo oo sharikadihii soo saari jiray baabuurta ha la mideeyo sharikaadkii samay jiray maanta ma arkaysaa dharka ha la mideeyo bunuugtii shaqayn jiroo kala gaarka ahayd ha la soo mideeyo sharikadihii dayuuradihii adduunka u kala duuli jiray sharikadihii ha la mideeyo waad aragteen iminka waxaa lagu leeyahay sharikad baa ay shirkad la taho wixii waa la mideeyo waa la qaybsaday adduunkii oo dhanba kulli waa la qaybsaday ma jirto maanta sharikad gaar garigeed u taagan xataa tii sacuudi arabiya allah ka dhigay sharikad gaar maanta u taagan ma jirto waa la qaybsaday marka sharikaadkaas bunuugtii in la mideeyo iyo sharikaadkii iclaamiga ahaa ee waaweyn in la isugu tago sinacaadkii sayaaraadka in la mideeyo tayraankii in la mideeyo duwal Orobiya cumlaadkeedii inay iyagu samaystaan cumlo ay ugu hortagaan dagaalkaas aan joogsanaynin lisaytarati al-aswaaq al-caalamiya kullaha inay saytareeyaan aswaaqda caalamiga muslimkeeda iyo gaalkeeda intaba inay saytareeyaan مثلا haddaan misaal ka soo qaadano sida ogsoon tihiin Mercedeska مثلا iyo Chryslerka waa kuwa mideeyeen waxay la mideeyeen Oxon iyo kuwa kale oo Mobil waa kuwa mideeyeen Mobil waxay kale oo soo mideeyeen AT&T iyo AT ayay soo mideeyeen iyagana مثلا British Telecom iyo AT&T way soo mideeyeen iyagana waxay isu keeneen in sharikaadkaasi ay noqdaan tamallugoodu sanadkii 1999kii مثلا 246 milyaar oo dollar sanadkii 88 diina
waxuu ahaa tamallukaadkoodu 21 milyaar buu ahaa inta u dhaxay farqibaad garanaysaa 246 milyaar iyo sanadkii 88 iyo ka horreeyay 10 sano ka hor inuu ahaa 21 milyaar keliyata inta uu booday marka qof walba oo garanaya majaalkii ijtimaaciga ahaa ama socialka waxa la yiraahdo waxa lagu sameeyay taqriib caalamka oo dhan ah in dariiqada Ameerika lagu soo mideeyo daraja uula yurubna daraja thaniya in lagu soo sameeyo oo marka loogu talagalayo lagu fuliyo mu'tamaraadka duwaliga in lagu fuliyo mu'tamarka mu'tamaraadka duwaliga lagu fulinayo waxa kamid majaal mar'a waa ogsoontiin marna China lagu qabtay marna Cairo lagu qabtay sida ogsoontiin shabaabka مثلا in la tarwiijiyo qadaayaadkooda ilmaha in laga saaro wadamada guryaha muslimiinta in laga saaro gabdhaha in laga saaro in la gaarsiiyo wax alla waxa dhaqanaha boyfriend iyo girlfriend guryaha muslimiinta in lagu fuliyo bidaad ayaa qaraar ku ahaa in la sameeyo la yareeyo sukaanta adduunka oo muslimka taxdiidu nasli lagu sameeyo dhaqaalaha tanmiyadooda in la cuuriyaamiyo oo muslimka laga cuuriyaamiyo mustawtanaadka bashariga ah oo dhan dhammaantood in laga dhigo wax la control karo oo say doonaan ay ka yeelaan mu'tamarkii qaahira iyo Bekin wuxuu ahaa miisaal ayuu ahaa arinta ayada bandiga kalaada la adeegsado waxa weeyaan tatbiiqul akhlaaq in akhlaaqda iyo caadaadka qarbiga lagu faafiyo mujtamacaadka oo idin dhammaantood China haduu yahay Afrika iyo haduu yahay Carabta haduu yahay in la faafiyo caadaadka iyo dhaqanka iyo taqaaliidda Mareykanka iyo reer galbeedka oo dhan in la faafiyo oo jaraa'idka la geeyo loona adeegsado caadaadka jaraa'idka iyo internetka in loo adeegsado telefisyoonka in loo adeegsado sharikaadka in loo adeegsado shucuubta oo idil kulligeed in lagu fuliyo arinta ayada maanta waxaad arkaysaan internetka dhibaatada uu leeyahay ama mushkiladda uu haayo in xataa sagaskii laga daawanayo oo guryaha loo soo gelinayo qof walba oo cable-kii loo soo gelinayo internetkii baa loo soo geliyay cable-kii baa loo soo geliyay majalladii baa loo soo geliyay jaraa'idkii baa loo soo geliyay iclaamkii kulli meel walba iskuulkii baa laga dhigayaa geyskii lisbenkii in la baro dadkii oo dhan wax alla wixii mujtamacaadka lagu baabi'inayo dhan in la hirgeliyo dhammaantooda oo idin yani tadbiiqaas oo arrimahaas ayadaa la fulinayo waxaa ka mid ah maalan caadaadka dulka muslimiinta lagu fuliyey birthday-ga maalan ilmaha marka in loo sameeyo maalintii dhalashada in la sameeyo oo caadaad laga dharginayo dadka muslimiinta lagu fuliyo in laga dhigo oo gaar loogu rakiso iminka gaar loogu rakiso oo le muslimiintu ilmaha uma sameeyaan birthday waa in lagu fuliyo caadaadkanaga inay maanta markaysaa volunteer ama valentine waxa la yiraahdo in lagu fuliyo ciidoodii in lagu fuliyo in lagu sameeyo christmaska in lagu fuliyo in lagu fuliyo xanuuka in lagu fuliyo ciida yahuuda in lagu fuliyo iyagana hollywoodkii iyo maanta markaysaa ardigoodii in lagu fuliyo iyagana caadaadkii iyo taqaalidii oo dhan dhammaantood in guryaha muslimiinta ama halloweenkii lagu fuliyo ciidii wathaniga ahayd dhammaantood guryihii muslimiinta maanta in la geliyo kulligood oo dhan saa looga dhargiyo la yiraahdo waxba yaanay ku dhaafin gurinayoona idinka baxsanin qofnayoona idinka baxsan caalamka waxay ka mid tahay nidaamka globalizationka oo adduunka la rabo dadku si spontaneous in loo soo gumaysto la doonayo si spontaneous in loo gumaysto yani si toos in loo gumaysto oo qof walbaba xataa soo gurigiisii jooga in loogu tago oo dhaqankiisii iyo caadadiisii iyo diintiisii la soo bedelo oo dhammaantood laga soo dhigo mid salka ku soo wada haya caadaadkii reer galbeedka oo dhan dhammaantood majaalka fikriga iyo thaqaafiga waxa uu adeegsadaa nidaamka globalizationka la yiraahdo ama cawlamada loo yaqaano ama afduubka adduunka in la adeegsado siyaasadda iyo iclaamka iyo dhaqaalaha iyo fikriga in la adeegsado caskariyadda xuquuqul insaan in loogu gambado dimuqraadiya in loogu gambado wadamada muslimiinta in la yiraahdo xuquuqul aqaliyaat alkaafira ayaa jooga waxa jooga xurriyati ra'yi dadkaani male waxaas oo dhanna dhammaantood waa inay noqdaan dadka loogu adeegaya dad nasaara waa inay noqdaan يعني تيمور وحي لغو سمي اندونيسيا وادوكسونتين مثلا ان عالم كدن وندي لغو دولي نصراني قاهي او برقدي للدمية ودن كاسي لغا حوغي وكسونتين دمانتي وحي كسو شقيي يونايتد تشيرشز كاوغوري وحي كسو قيلي او قيلada keenay military ahaan waa loogu fuliyay politically taas loogu sameeyay dhinacooda waxa ooynayay oo ka qaylinayay Kashmir baa ka qaylinaysay Timor baa ka halka waxaan dhihi lahaa qoladii Moro ayaa ka qaylinayso Philippines waxa ka qaylinaysay Kosovo waxa ka qaylinaysay intaas oo ummadood ayaa qaylinaya maanta markaysa wadamada Yurub ku dulman hal mid lagama fiirinin laakiin duulaan cad ayaa lagu qaaday meel meeshii qof nasraani lagu haysto in la yiraahdo hal xoreeyo qofka inta muslimiintaana aan laga soo hoos qaadin wadamadii ruushka uu gumaysan jiray muslimka ahayd hal mid dawladnimadooda lagama aqoonsanin laakiin kuwii Latvia iyo
maanta markaysaa oo balkaniskii oo dhan dhammaantood bidarajatu uula ayaa lagu aqoonsaday oo dhammaantood looga sii daayey laakiin waddamadii tashqan maanta markaysaa muslimka ahaayo oo gumaysan jiray asaga hal mida lagama aqoonsan caalamiyan lagama aqoonsanin waddamada iyaga ahaa waxaa kaleetoo ka mida maalan waxyaalaha lagu adeegto in la soo saaro qawaaniin jadiid ah oo loogu adeegsanayo qawaaniintaasi dadda shucuub addaciifa sida kuwa muslimiinta aan iminka soo sheegnay falastiin baan wax laga qabanin kashmiir baan wax laga qabanin mooraan wax laga qabanin waxaan wax laga qabanin wax alla wixii muslimuhu oynaya ama dhibaatoon oo dhan kulligood dheg loo dhigi maayo laakiin meeshaygu dad aqliyad oo gaalaha ka qaylinayaan markiiba say u dhan yihiin iclaamkooda iyo siyaasadooda iyo caskarigooda iyo dhaqaalahooda iyo diinigooda dhammaan one time baa lagu duulayaa waa mid loo jeedo oo bannaanka kashifan oo waddamada muslimiintaana ay leeyihiin wax allaala waxaan tari karnaa ma jirno maxaa yeelay horay ayaa loo soo baabi'iyey yani ukiltu yowma ukila thawru alabyad waxaa la soo qaatay maanta oo lala soo taagan yahay runtii in shicaaraad aan jirinin ama shicaaraad mucayan ah oo gadaasheeda ay ka dambaydo in la qaado kor loo qaado tasatur nasraani oo ka dambeeyo yahuudi in kor loo qaado oo lagu idaanaynayo waddamada carabta in lagu idaanaynayo yani maalan waxaa ka mid ah waddanka sacuudiga maalan marka la idaanaynayo oo la eedaynayo haweenkiiba uu xijaab ku farad yeelay oo ku qasbinaya waad ogsoontihiin gabarh dhakhtarada sacuudiya inta la soo miidaamiyey in la keenay canada oo la yidhi ka hadal waxa meesha ka jira waxaan ku siinayna jinsiya kanadiyaan ku siinaynaa oo faasiqadaheed markeedii horeba oo loogyahay markaasaa la leeyahay waxaa lagu hayaa haweenkao dhan waxaa lagu hayaa qahri baa lagu hayaa way doonayaan inay boyfriend iyo girlfriend inay samaystaan way doonayaan inay filimada daawadaan way doonayaan baabuurta inay wataan way doonayaan dawladda sacuudiga ayaa nagu ah jahannamo waa dawlad rajciya wayna iyadana la ridaa markaasaa waxaa laga dhigaya waxaan la arag oo la maqal ayaa laga dhigaya lama ogola haddaad caawa dhibka lagu hayo haweenayda lagu hayo waddanka reer galbeedka haddaad soo qaado oo maanta intaasoo bug laga qori karo hal mida in la soo qaado maanta lama ogola laakiin waddamada muslimiinta haa waa la soo qaadaya marka shicaarkaas oo maanta lala ordayo oo leeyahay gabadha sacuudiyada waa la dhiba maanta ma arkaysaa qahr baa lagu hayaa waa muxaarabo diinta lagula dagaalamayo waa muxaarabo lagula dagaalamayo akhlaaqda diiniga lagula dagaalamayo mujtamaca oo dhanna la rabo in looga takhalluso taqaaliiddiisa islaamiga ah marka shicaarkaas waa la wadaa leyl nahar ayay ku salladan yihiin bilmunaasaba maanta maalin markuu tegay cabdalla waddanka maraykanka waxaa la yidhi waa inaad ogolaataa haweenka inay baabuurta wataan waana inaad ka dhigtaa xijaabka gabdhaha qasabka aad ku haydo kulaylka iyo xijaabka aad ku hayso waa inaad ka dhigtid wey wuxuu yidhi aniga ima khusayda arrintan wadaadaday khusaydaa wadaadada jaamacaadka dhigtaaba waa jaamacadaha laga barta baa la yidhi terroristaha laga barto iyo fundamentaalistaha iyo balaayada oo dhan nacaybka gaalada laga barto weeye marka waa in la xiraa iyaga dhamma gebigooda in la xiro wey manhajkana waa in laga saaraa kutubtan diiniga ad ku dhigaysa waa in laga saaraa maxay tahay baa waxaad alfaynka wadaa waa maxay diinta ay waxaad ka hadlaysa waa maxay adduunkii waxaa noqday secular buu noqday marka waa inaad ka takhallustaa waxaan aad wadid wey gebigeeda dhanba could you believe that taa maanta ma rumayn karaysaan waa xaqiiq weeyaan waxaa ku xigtay maalinta inuu maraykanka ka doodayey baarlamaanka waddanka sacuudiga see loo kala qaybiya inay ka doodayeen one day complete day inay baarlamaanka uga doodayeen white house oo leeyahay maanta markaysa annaga waa inaan qabsannaa dhinaca batroolka waa inaan qabsanno urdunna waa in lagu soo daro maadaama marka hore ay ka tageen sacuudiga waa in lagu soo celiyo marka waddanka sacuudiga naftiisaba waa in la kala guuguuyo waa isaga naftigiisa hawl cusub in laga qabto weeye terroristaha ka soo baxa iyaga waxaasoo kaleeto iyo bilaadan oo kaleeto abuuraa had iyo jeeraale marka waa in waddanka sacuudiga carabiga oo balaayadoo dhan ay ka soo baxda iminka waa in la kala tuuro weeye irhaabigoo dhan iyagaa fangareeya ducaadda la diraya iyagaa diraan waxaan colaadda faafinayo dhan waa iyaga waa in laga takhallusaa iminka maanta inay taagan tahay heerka iyada dawladdii shala taageeraysay oo iyaga taabic u ahayd maanta in la leeyahay wakhtigeenni waa ku soo moodnay waa la soo dhaafay marka maantayto nidaamka globalizationka ee jirahay waa in iyaga dhan laga takhallusaa oo dhammaantood la keena dad cilmaaniyiin ah waan diin shuqul ku lahayn waa in laga sameeyaa inta kaleeto dhaqaalaha saldhigoona waa inay gacanta maraykanka soo galaan halka ay maanta taagan yihiin majaalis siyaasiga waxa weeyaan in la adeegsado umamulmutaxida sidaan horeyba usoo sheegay majlis duwali alamni duwali in la adeegsado inay isticmaalaan wixii ayaga saalixoodan xaqi naqdi veto inay isticmaalaan ama vetoga inay isticmaalaan wax alla wixii aan maraykanka iyo israa'iil aan dan u ahayn inay veto isticmaalaan horena waa u jiri jirtay haddana bannaankay taagan tahay xataa haddii laga baqayo inay veto saaraan in la soo saarinba marka hore la soo kicinin majaalka caskariga inta mucaahadaad la samaynayo waa midaan hore uga soo hadalnay ama istiqdaamu alcarab waalcajam
inay maanta isticmaalaan oo lisaalix amriika inay u isticmaalaan midda la yaab kale qariibka waxa weeyaan waddamadii muslimiinta carabta ahaa in maanta loo adeegsado xataa ayagii naftigoodii duminta diintoodii iyo akhlaaqda dalkooda la baabinay ayagii naftooda loo adeegsado laga fermeeyo hadi mahzal marka taasi ma aha khasaare waa barwaaqo waan sheegi doonaa insha allahu tacaala majaalka technologyga cusub ee jadiidka yani waddamada muslimiinta hal qamaru sanaacina ma laha bill gate wuxuu sii daayay 500 oo qamaru sanaaci kaligii sii daayay bill gate yahuudiga waxaan dhihi nasraaniga اتصالات الفضائية كلية 500 أو قناة فضاء أيو كلجي سيدا نكان وحال لو أديك سدا أنت سو قناة فضاء أغراض عسكرية أما مراد عسكريات ولو أديكتا تجسس ولو أديكتا حرب النجوم أسجع لو أديكني وحلا لو وحي كليتو أو ما أنت لجالسين سيطرة العالم أما اتصالات كلن أي لو أديك سدا شركات كعالمية إن اللجوء سمي اتصال تطوير الاتصالات إن اللجوء سميه in laga kaaftoomo xataa la gaaro telefisyoonka oo qof walba loo sameeyo shay oo ku sameey karo gacantiisana oo ku sito wax alla waxa uu doonayo dhan oo ku sameey karo cidoo doono kula ballamay karo cidoo doono yani in la sameeyo cellular gacanta oo qofka uu ka fiirsan karo sagaska uu ka fiirsan karo qariban jinsiga uu ka fiirsan karo communication oo ku sameey karo telefoonada uga soo bixi karaan cidoo doono meeshoo doono si sahlan inuu heli karo in wadamada muslimiinta targetka koowaad laga dhigo arrinta iyada fiber opticski yani maanta markaysaa nortel iyo ay ka shaqayn jireen JDS iyo wixii la mid ah maanta in caalamka oo dhan taxta albihaar la adeegsado oo internetkii lagu adeegsado wax alla wixii la adeegsan karo dhammaantood in lagu la dhaqmo laakiin maanta qadiyadaas ayaga kaliya kuma koobna sida runta wax badan ayaa laga faa'iiday oo looga faa'iideysan karaya aan soo gaabiyo internetku maanta waxa weeye faa'iido badan uu leeyahay runtii iyagu sharbi u asaaseen laakiin faa'iido leeyahay فايدة waxaa kamid quyuudi iyo xawaajista in laga saro macluumaadka iyagu ay xajisayeen in laga helo runtii shabaka muhiim ah inay noqotay xaqiiqatan oo maanta dadka fiirsanaya 500 ila 600 oo milyan oo shakhsi ayaa fiirsanaya intaas oo dhan xataa waxa lagu sameystaa tijaaro lagu sameystaa waxa loo yaqaano e-commerce ama la yiraahdo ayaa lagu sameynaya waxa looga faa'iideysanaya runtii qudraad fara badan oo marka hore dadka ka xayirnaayeen ayaa lagu ogaanaya faa'iidooyin fara badan ayay u leedahay runtii mushkiladda mujtamaca ay ku hayso marka cawlamadu ama dhibaatooyinka ay ku hayso waxay abuuri doontaa laba mujtamac ay abuuraysaa ama globalizationku dabaqa qaniya oo yar oo adduunkooda iyadu madaxa kaga taagan iyo inta kaleeto oo madaxa looga istaagan yahay oo faqri iyo balaayo ku sugan iyo qahri ku sugan ayay abuuri doontaa maalka wuxuu ku kulmi doonaa gacan fi ayar ayuu ku kulmi doonaa maalan sida Bill Gates oo kaleeto iyo wixii la mid ah waxay gacanta ku dhigi doonaan shucuubta oo dhan amarkooda inay gacanta ku dhigaan oo siyaasadda iyagu ay maamulaan maxaa yeelay hadday siyaasiyiinta lacagta iyagu haystaan waxay oranayaan sidaas sameeya marka caalamka oo dhan inay iyagu amuurtiisa ama nidaamkiisa inay gacanta ku dhigaan waxa kaleeto soo baxaya dhaqaalihii iyo itisaalkii iyo qaanuunkii iyo tashriicii iyo kulli waxaasoo idili wuxuu isugu tegayaa daddeer gacantood islaamku waa diidan yataa إلهي قرآن سبحانه كله لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني إلهي مالك وقوت لك إن لك لوزعوا لك لقيبيه حدو ننكو دونت إن لك لدحلو أو لك لقادو سيانو داد يرجع عنتو دقو أرور مالكو لكن أياك سيدي هدو مانتو وضان وحوي إنو داد يرجع عنتو دقو أروره وحي النقطي طبقة دي فقراء هات طبقة العبيد يعني داد كيني صوبحان داد عبيده اللي أديك سيدا كلية إني صوبحان أو الشرف كي كتغان أو أي ولد أغنياء دا كلية أي أدون صنيان وسيدي عالم قبل الإسلام أو كسرنا يكرت إن لجسوا عليه أو ذاتك فقراء أنا إلهين كلمة أنا كلها المجتمع أنتي سكليته انتخابات كأنا كلمة كلها تغيير السياسات أنا شغل كلها اتخاذ القرارات أنا شغل كلها مجال كستانة دمانتوت إنه صاح رمي أو ضد يرجع أنت تسوي يمت حتى عالم كويدل ما أمريكا كلي يا أوروبا عالم كويدل إلا يراد إن كان كقاعدة إن كانت سارة buuga ku dhiga buugan ha ku dhiginina dharkaas ha laga xirto dhar kale ayaan laga xiranin cuntada ha laga cuno cid kale ayaan laga cunin baawurka ha laga wato cid kale ayaan laga wadanin telefoonka laga isticmaalo cid kale ayaan laga isticmaalin dhammaanba caalamka oo dhan inuu iyaga gacantooda isugu yimaado oo ay noqdaan remote control adigu aad shideedii markaa doontana aad damaynaysa inay ka dhigaan khatarka thaqaafiga ah ay leedahay tadmiiru thaqaafaat dhammaantood luqaadka adduunka oo dhan in la baabiyo dhammaantood oo la abuuro runtii thaqaafa waaxida oo thaqaafada
maanta Amerika in la abuuro kaliya iyo reer galbeedka darajada labaad haddii tacbiirkaasi uu sax yahay in la sameeyo dhaqanka iyo thaqaafada iyo caadaadka Amerika in la hirgeliyo hadday soo dhaafto Amerikana aanay Yurub dhaafinin ay noqoto darajada labaad ee lagu dhaqmo Yurub inay noqoto loo adeegsado in alla intaan soo sheegnay ee technology in loo adeegsado marka la baabiinayo thaqaafaadka marka la baabiinayo maanta internetka markaad fiirido luqada uu ku socdaahi 80% waa English way soo sidaama 80% luqada ku socdaa waa English way walidaalka saasay u diidayaan wadamada kale oo Jarmalka iyo Faransiiska iyo Scandinavianku waxa ay doonayaan inay hor istaagaan oo yiraahdaan may qayb waa in laga siiyaa anagan waxay ogyihiin in la laqayo luqadoodii balse luqadoodu Ingiriis ma waa Latin way iyagana عرب اسكدا صومالي اسكدا لغة كلا تصوحيل اسكدا وعوي حتى تيد أوروبا الربا إن لقى تخلصوا ولا قد يقول اللغة الوحيدة في العالم لغة الإنجليزية إن لقى يقول يا لدونية ولذلك قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك مركب وكاد لي أيا وحو يري وحا واجب أبو يري إن سمينا أبو يري أنقنا الله ينسى عصبنا سمينه أما آلس عصبنا سمينه تحالف عصبنا سمينه دول كأن اللغة الإنجليزية كو هذا لن إنا نسوكين أبو يري أنقنا sida yuuraha loo sameeyay imin wax alla waxa duwala oo luqada Ingiriisiga ku hadlo dhamaantood inaan midayno oo aanu ka hortagno liqitaanka uu doonayo inuu naliqo Mareykanka Ingiriiska inay liqaan ay doonayaan oo luqadooda inay naliqda ay doonayaan waa inaan ka hortagnaa buu yiri waan arinta ayada sameeyna 90% sidaan hore buu sheegay ama 80 waxa weeyaan luqada la isticmaalayo oo internetka waa luqada Ingiriiska ayeen waxaa laga helaa adduunka 600 oo luqo ayaa adduunka jirta 600 oo luqo ayaa adduunka jirta 600 oo luqo wuxuu rabaa inuu liqo luqada Ingiriiska in lagu liqaa la doonayo 600 oo luqo oo adduunka jirta shucuubtay ku hadlaan adduunka jirta ka waran balanta ayada hadii telefoonka loo adeegto oo maanta loo adeegto telefisoonkii oo loo adeegto internetkii oo loo adeegto waxa la wixii la sameeynayo luqooyinkii kala dhan kulli waxa la rabaa in la dictate gareeyo la dominate gareeyo la liqa marka swallowing lagu sameeyo luqada Mareykanka luqada Ingiriiska kaliyana ay noqoto mid kaliya ee jirta waqtiga استخدام اللغة الإنجليزية في التكنولوجيا العصرية waxay keenaysaa marka in laga kaaftoomo Carabigi iyo Faransiiski iyo Jarmalki iyo wax la wixii luqaha iyo kala ka soo haray iyadan wada madaqtiga Soomaa waan joojin intii alla yiraahdo akhlaaqda khatarka akhlaaqiga oo leeyahay طبعا taal idin kaga warramay akhlaaqda khatarka oo leeyahay waa u jeedaan maantayto internetka waan sheegnay zinadii iyo baqtigii iyo telefisoonkii iyo fasaadkii khuluqiga ahaa iyo maalin kasta in la faafinayo journalka lagu faafinayo majallaadka lagu faafinayo internetka lagu faafinayo telefisyoonka lagu faafinayo oo gayskii iyo lesbiankii haweenkii iyo raggii mukhannafiinta ahaayeen iyo saxaaqiyaadkii in la soo taagan yahay waa perfect America maanud mudaharaadka ka sameeyay Canada waa la socotaan intii leegihiin Yurub meel kasta waxa way in la hirgeliyo oo la baabi'iyo yani nabiyullaahi luud waa ku yiraahdeen yani ka bixiya qaryadiina ka bixiya akhrijuu aal luut min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuun ka bixiya waxa la wixii istahirayo xumaanta diidan oo dhan ka bixiya qaryadiina bay dhahay maanta waxay taagantay inay yiraahdaan gayskii lesbiankii waxay la siyaasiyiin yeesheen dhaqaale dad la yeesheen shirkad bay yeesheen wax walba yeesheen maanta waxay taagantay qofkii dadka oo shuduud jinsiga qaba wax ka sheega halala dagaalamo oo lambaarey dabcan cid quudanaysa ugu horeysa waa yahuuda way sida ogsoontihiin gabagabo cawlamada ama globalization ka ama afduubka caalamku wuxuu hirgelinayaa ama uu runtii aad iyo aad oo ku sameeynayaa maalgelin iyo investment wax alla waxaas akhlaaqiyaadka ah oo dhan oo xun ayuu hirgelinayaa qoysaska la baabi'inayo iyo kala jabinta la kala jabinayo way hirgelinayaan waxay sameynayaan xataa ay ogol yihiin haweenayda la qabaahay inay samaysan karto niman kale oo saaxiiba inay samaysan karto haween kale oo saaxiiba la oo fuula inay samaysan karto saasay hirgelinayaan yani haweenayda inay haween kale oo fuula samaysan karto niman kale inay samaysan karto ninkii inuu samaysan karo niman kale oo fuuli karo haduu rabo maanta markaysa naaga kale inuu samaysan karo in la baabi'iyo qiyamkii yani waxa la yiraahdo family value oo dhan in la tirtiro dhamaantiis qiimaha qoyska oo leeyahay dhan kulligiis in la tirtiro oo la damiro bal waxay hirgeliyaan maanta ito inay ilmihii ayna iyagu dhalin xataa adoption ay ku sameeyaan ay ilma ka dhigtaan oo ay baraan waxa iyagu ay ku dhaqmayaan inay baraan maxay waxay doonayaan inay faafiyaan ka dhigaan mujtamac oo dhan inay ku faafto ridilidaas ay doonayaan yani ilmayna dhalin laba haween oo isfuushan ilmayna dhalin ay soo qaadanayaan oo ilmay ka dhiganayaan hortooda isku fuulayaan way barayaan wixii
nimankii isfuulaya sidii oo kale ilmahay soo adhabti garanayay ilma ka soo dhiganayaan waa ilmihii wixii bay barayaan xuquuqdii qoyska hana la siiyay leeyihiin halkaanay soo taagan yihiin balaayadan oo dhan ay samaynayaan waxaasoo dhan waxaa ka shaqaynaya waa iclaamka codkooda lama maqli jirin cidima soo qaadi jirin maanta iclaamka ayaa samaynaya internetka lagu samaynayaa jariidada lagu samaynayaa waxaa lagu samaynaya magaaziinka lagu samaynayaa tv-ga laga xayaysiinaya meel kastaa laga sameeya iskuulladiia lagu dhigayaa waa la soo baxo waa la soo keenay in la hirgeliyo ayadana runtii munaaqashaad in la furo waddamada muslimiinta khaasatan ku saabsan xawla almar'ati almuslima in la furo oo laga xoreeyo quyuudda islaamiga in laga xoreeyo quyuudda islaamiga waxaa la yidhi halkii dumara ee laga helo waddamada muslimiinta ee soo istaagta ee naqdi ku samayda mujtamacaadka muslimka waa in la siiya dhaqaale sharikad le-eg oo kale in la siiyo dhaqaale sharikad le-eg soomaaliya haween oo waxaa ka shaqaynaya la soo keenay soomaaliya loo diray iyagoo NGO ah soomaaliya loo diray gobol kasta waa loo diray qaar la helay iyo qaaran la helinba niman qarribana loo diray shalay waxaa isku qoray maalin markaan soo socday Toronto Star waxaa isku qoray nin Soomaali ah oo yiri waxaan ahay nin oo la fuulo ayaan ahay ayaa isku qoray Toronto Star buu isku qoray wuxuu leeyahay boqolaal iyo kumanaan ayaa jira Soomaali ah oo isqarinayoon hadli karinin oo aniga ila mid ayaa jooga ku leeyahay naaga intaba yaa ku samaynaya oo xayaysiinaya waa iclaamka waa sharikado waa mu'assasaad ayaa ka dambeeya waxaa leeyahay dadkan la dhibayo la qahrayo waa in qahriga laga qaada waa la baraya waa loo taagan yahay waa loo jannidaya waa loo samaynaya calankii Soomaaliya soo qaatay leeyahay markii ay mudaaharaadayeen oo kaleeto waxaa kaloo ka sii daran iyadoon qof Sacuudiga ku jirin iyo calankii la leeyahay Sacuudiga soo qaatay laa ilaaha waa loogu dan leeyahay taa kolkaasaa TV-ku ku nabaya ayada calanka Sacuudiga lagu nabayaa keliyata yani waxaa leeyahay gayska lesbianka oo maanta mudaaharaadaya waxaa ka mida calanka islaamka Sacuudiga ka mid ah qof Sacuudiga kuma jiro dadka laakiin islaamka lagu xumaynaya lagu cambaaraynaya waxaa leeyahay diimaha oo ka mid yahay dadkoodu ay waxa ku dhaqmaan bay ka mid yahay marka yani dagaalka lagu haayo ma aad ogid adiga intuu leeyahay xajmigiisa laakiin gabadha iskuulka joogtay midda kale to dariiqa maraysi midda la qaba iyo internetka midda laga la xiriiraya iyo fasaadka lagu hayo ilaahay umba subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan marka munaaqashaadkaas maanta iyo doodaas waa furan tahay wadanka Sacuudiga iyo wadamada muslimiinta khaasatan aad baa looga furo qadaayadkaas hada ogsoontiin guri la dhaafayana mala la Soomaaliya wala golo kale midna la dhaafi maayo si ogsoontiin maradka aydiska ama cudurka aydiska la yiraahdo Soomaaliya sida ugu faafay ilaahay umba subhanahu wa ta'ala sida dadku ay sheegayaan iminka waxaa ka mid ah in la isticmaalo wasaa'ilka maafiyada iyo mukhadaraadka in la hirgeliyo runtii ajhisadaas in la sameeyo maalka in lagu dhaco internetka dadka in la dhaco nahbul amwaalka in la sameeyo sariqaadka in la sameeyo runtii yani bidaaqaad jinni in la sameeyo mucaamalaad barnaamijyada xataa TV-ga marka qaarkood sharikaadku inay qarribaan oo ay virus ku sallidaan kombiyuutarada inay ku sallidaan waxaasoo idin waa waxyaalo loola jeedo international globalization ka loogu qastayo mustaqbalka marka waxaan la yiraahdaa globalizationka mustaqbalkaasi duwalka ayagu iminka haysta nidaamka oo Mareykanku ugu horeeyo waxay qaadan doontaa halaag iyo baaba ayay ku soo wadaa qadiyadaasi ayaga dhexdoodana halaag bay ku soo wadaa ayaga iyo wadamada kale tan dagaal bay ka dhex abuuri doontaa waa meeshan doonaya inaan runta idin kaga sheego يعني وحول با وقتي إليهن وقت قد مركي اللي جارو أيه قدال وقصون نقطة شرط هذه بلاية دي مركز الدول كمان توضع مشرف ككا أمريكان كو يكمديهن يا أوروبا يكمديهن ورجوا دائما ما يانو مجري دونان بل وحين نقول دونتا أمريكا نفتي هذه يا أوروبا نفتي هذه إن ده هذا قرح كدعو أيا إيمان دونتا صوته قدع يعني وانا دين شيء واسيد أنا جراي جاي تاي منهج كورت عاولة مدى أما globalization وحو بدين دونا ظلم فربدن يا قهر فربدن iyo fawda fara badan iyo nidaam la'aan fara badan ayuu abuuri doona mujtamacaadka ku dhex abuuri doona hatta fi Amerika nafteeda ku abuuri doona wuxuu keeni doona dhibaato aan iclaamka aan la xalli karinin oo badan ayuu keeni doona oo wax walba faraha ay ka bixi doonaan dhaqaalihii ayaa sidaa noqon doona siyaasadii ayaa sidaa noqon doonta iclaamkii ayaa sidaa noqon doona thaqaafadii ayuu burburin doona isku wada xirnaantii ama ummaduhu ay ku sugnaayeen oo dhan markuu sidaa u galo qahri fara badan iyo colaad fara badan iyo carab fara badan ayaa bilaaban doona marka mawjad qadab ah iyo mawjad dhib ah oo fara badan ayuu kicin doonaa sida loo ogsoon yahay waadi sunnatullahi fil kawn ilaahay sunnadiisa way subhanahu wa ta'ala
wax kasta oo qooqa oo kibra ama xadkoodii dhaafa ilaahay inuu damiro oo halligo baabiyo ilaahay hay halligay subxaanahu wa tacaala sidoo qaaruun u halligay oo fircawn uu halligay oo haamaan uu halligay oo caad iram oo u baabaashay oo qowmu thamuud oo u baabaashay oo qowmu nuux u baabaashay wax allaala wixii kibra oo xadkooda ka baxa ilaahay wuu baabiyaa subxaanahu wa tacaala marka ilaaha baabi'in doona isagoon cid kaleeto ugu soo gamban subxaanahu wa tacaala waxaa ka bilaaban doona duwalkaas naftooda muqaawama ka bilaaban doonta yani resistance ayaa ka bilaaban doona yani diidmaa ka bilaaban doonta rejectiona ka bilaaban doonta dadku ay diidaan dhammaantood ayaa ka bilaaban doonta waxaa ka bilaaban doonta xuruub daakhiliyaha ka bilaaban dagaal daakhiliyaha ka bilaaban doona maxaa yeelay haddii la isqahro oo la isdhibo sidii dacwadii la eryanayo kale markii dadka sida dacwada ninkii eryaayay gidaarka markay gaarto ee orta inayna ordi karin gadaalay qofku usoo aasi ku booda waa qanintaa marka lagama baxsado markaa yani dacwada qofkii eryaayay say eryay marka dambeeto markay arta inayna ordi karinin qofka eryay gadaal ugu soo boodaa marka dadka sida loo qahrinayo marka dadku waa soo jeesan doonaan waxaa bilaaban doona dagaal midka ugu qallafsan ayaa bilaaban doonta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo waxaa bilaaban doona ijtimaaciyada kulli wax oo dhan waxaa bilaaban doona balaayaa ku bilaaban doonta gadaal lagu soo qar xataa hadii jeeraale sida sababtu waxa weeyaan ummaduhu ma dhammaadaan ummadda haddii la gumaysto la laayo oo fircawna lay waayey reer banu israel markuu gumaysanayay marka ummadaha lama dhammay karo haddii la dilo oo la qahro oo la xabiso oo la eryo oo la tashriidiyo oo balaayo lagu tacbo ummadaha lama dhammay karo ummaduhu marka dambe ayagaa soo haraaya waxa wax qahraayaa fashalku ku dambaynaya daa'iman marka ummaduhu dhammaan maayaan waxa dhammaan doonaahi oo ku dhici doonaahi tacdiibka iyo qatliga iyo irhaab ku dhici doona waa waddamada globalizationka wada ayuu ku dhici doona gadaal lagu soo noqon doonaa caalamku waxa ma aqbali doono dhammaantiis maxaa yeelay caalam aan ahayn reer galbeed iyo maraykanka aanan ahayn oo badanaa jooga ma aqbali doono caalamku inuu maraykanku uu ku haysto gumaysiga inuu ku haysto ma aqbali doono waa la iska hor imaan doonaa marka dambe markii la iska hor yimaado oo ay diidaan caalamku ay diidaan wuxuu u wareegsan doonaa in herdigaasi uu keeno in marka ay socon weydo qadiyadan globalizationka ummad walbaa marka inay samaysato xuduudeeda dib ugu noqoto ayaa imaan doonta ilahayna qur-aankii sidaasuu ku yidhi walowlaa dafcu llahi innaasa bacdahum bibacd lahudima sawaamicu wabiyacun wasalawaatu wamasaajidu yudkaru fiiha smu llah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض بغير الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إلهي سيداس اسمه سبحانه وتعالى wuxuu ka soo horjeedaa cawlamadu aayaadka qur-aanka oo dhan ay ka soo horjeedaa ama nidaamka globalizationka ama gumaysiga adduunka ee cusub wuxuu ka soo horjeedaa ilaahay aayaadkiisa iyo sunankiisa ka soo horjeedaa marka ma shaqayn doonto waxay qaadan doontaa inhiyaar iyo baaba bacda fatrati min azaman ayay qaadan doontaa waxay ka soo horjeedaa xadiidkii adaa'ifa almansuura oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaduruhum man khaalafahum xadiidkiisii ayay ka soo horjeedaa maadaama ay ka soo horjeedo ma shaqaynayo sida loogu talagalay bacda fatratin min azaman wuu soo noqon doonaa oo waa baabi'i doonaa waxaan doonayaa runtii wakhtigayga maadaama uu dhammaaday inaan iska joojiyo wixii kaleeto su-aala aan u helna haddaan waqti u helno kaleeto xoogaa yar baan rabay inaan ka sii hadlo runtii fawaa'idka ay leedahay iyo waxyaalaha cawlamadu ay leedahay dadyowga kaleeto waxyaalaha ay u faa'iidaysay intaasaan xoogaa kusoo gebagabaynaya wabillahi tawfiiq وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاه الله خيرا شيخ محمد رشاد محاضرة سيقيم كله شيخ وقتك مركز تواسكو هينا marka had iska dulqaato anaga laftigeena meel kale nagala ereeya insha Allah hal su'aal oo si kooban iyadoo waqtigu nagu yahay uga soo jawaabo ayaan rabi lahaa maadaama ay soo badbadatay waxa la leeyahay sheekhow ururada ka soo horjeeda cawlamada ee reer Yurub aan ku naqaanay shirarkooda meel walba taga ma kala qayb qaadan karnaa hawshaasi xaqiiqda waxa weeyaan wax alla wixii cawlamada maadaama aan carribnoon sheegnay inay col ku tahay thaqaafaadka kale ummadaha kale oo islaamka uu ka mid yahay dhaqanka ummadaha kaleeto caadaadka ummadaha kaleeto luqaadka ummadaha kaleeto dhaqaalaha ummadaha kaleeto siyaasadda ummadaha kaleeto wax allaala wixii looga hortegayo ee lagula dan qofka wada in lagu taageero waa lagama maarmaan weeye maxaa yeelay in la jebiyaahay annaga dan noogu jirtaa globalization in la jebiyaa annaga maslaxa noogu jirtaa nacam marka qofkii cod ka dhiiban karaa waa lagama maarmaan midda kaleeto yani qofka muslimkaahi inuu daa'iman iska aamusan yahay maaha waa inuu cod leeyahay
cod waa inuu leeyahay daa'iman yani caalamka inay ka maqan yihiin muslimiintoo dhani maahan saxiix waa inay yidhaahdaan weeye waa qalad waxaan la samaynayaa sidaa iyo sidaasayna ku tahay xataa iclaamku hadduu 10% soo daayo danaa kugu jirta adiga marka in laga hortago dulmiga oo wado maraykanku oo wado oo uu ku fulinayo reer galbeedkood u jeedaan maxaa yeelay wixii muslimiinta khuseeya wadamada reer Yurub ma yiraahdaan muslimaan naga daa ma yiraahdaan waxay yiraahdaan ma socon karta arrintan laakiin waa ku fulinaya wuxuu leeyahay adinka idin ma khusaydee fuliya adinka naftiina dan aad ku jirta fuliya marka qolada ka soo horjeeda oo anti globalizationka wada in lagu taageeraa waa laga maarmaan weey maxaa yeelay anagayno aday globalizationku waa isticmaalkaaga cusub oo lagu isticmaalsanaya weey wax alla waxaad uga hortagayso lagu jabi kara in lagu joojiyo waa laga maarmaan weey nacam marka waa laga maarmaan qaybta in laga qaato nacam جزاه الله خيرا شيخ محمد رشاد سؤالها انت سان كسو كوبينا waxaa jirta waraaq timid oo waraaqihii hore la socotay oo oranaysa wiil quraanka dhameeyay degan Stockholm teleefankayga ha sheegin ana diyaar ah buu yiri marka waa hawlihii laakiin waxaan sheegaynaa waraaqdii hore teleefanku ku qornaa laftigeeda in wali la yahay walaw codsiyo fara badan ay yimaadeen marka hawsha wali alxamdulillah waliba raggu waxa fulinimada way ka muuqataa sheekha maalinkii gacanta ha taago yiraal la rabay hadda wixii ka dambeeyay insha Allah waxaan ku wareejin doonaa Sheekh Yuusuf wixii telefoon ah walaw warqadii hore gabdhaha ka timid teleefanka ku qornaa la garan laayahay macnaheeda maxaa yeelay sheekhu wuxuu yiri teleefankii waa la waayay marka raggu ha iska sugaan dhalinyarada wara codsiyada soo qoratay